أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب مركو قرد وهم علينا الله سبحانه وتعالى سكان كيني إنه فلينا دمانتين غير ليبان قلبت سلام وهرين أنت نقول قلين برنامج كيني أما حفلة ديني أو إسبرشة كسب سنة وعن روا إن أنا جسك بالله مقعي وحاوي أحمد عبد القادر أحمد كاس وكم عدير جنوني قفل مركان ده جنون وفاهم يا لكن أحمد ده أحمد كيوا اللي هي وحافي لا يعدد كبده قلت جنوني نسموه الفانسنين جنوني وحاوي عمر عدي جنوني مركان ده وحاوي والفهم لكن وحاسس توصلوا سيفهم بدون مركان ده عمر عدي marka xigta waxaan mahad celinayaa dhamaan gudigii soo qaban qaabiyay xafladani sharafta badan quruxda badan isku keenay walaahi hadii si loo fiiriyo ku dhawaad 200 oo qof inuu qof isku keenaa zaid u adag tahay laakiin haday ka go'an tahay qofkaas oo helaado la shaqeeya easy way wax zaid u yar markaas waxa si gudgeli doonaa barnaamijkeeni ama xafladeeni wax uu qiimaha badan oo lagu furto waxa uu qaalisan aayadaha quraanka kariimka oo noo soo jeedin doono sheekheeni Saciid Yuusuf Deeriya a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim wad-duhaa wal-layli idhaa sajaa ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم صدق الله العظيم إلهي أجر يا كثير waxayna ugu xigi doonaa markii goob la isugu imaado waxa ugu horeeyo aayadaha quraanka kariimka waxa ku xigo in la xasuusiyo diinteena aniga daanan dad muslimiina marnaba kama tagno in la iswaaniyo waxa ku xigi doonaa marka macallin Maxamed Abdulle Samatar oo noo soo jeedin doono khudbad innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب الحمد لله ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى أيان أولا أمهد علينا مهد بلارن ونسوكو بكرين الله نقد جاي ضد مسلمين مؤمنين خدنا إخوة ولا له إخوة دينية نصبية مرك الله فيريو dhinaca islaamnimada naga dhigay walaalo haddana nasabnimo iyo nasliga iyo abtirsiimada naga dhigay dad walaalo haddana dad aan la soo koobi karin waxa ka dhaxeeya xuquuq iyo wanaag iyo wax aan la soo koobi karin allahaas ayaan mahad balaaran u celinaa
nicmooyinkiisa faraha badan oo la soo koobi karin oo ugu galadaystay thumma waxaan u mahad celinayaa walaalaha dhalinyarada reer Liibaan dheergaradka juhdiga iyo dadaalka dheeraadka bixiyay ee wanaagan iyo quruxdan iyo waxa meeshan ka muuqda ka soo shaqeeyay soo bilaabay ilaa heerkan soo gaarsiiyay ayaan ugu mahad celinayaa waxaan leenahay jazakumullahu khayral jazaa ilaahay subxaanahu wa tacaala khayr fara badan oon la soo koobi karin ha inkaga abaalmariyo taas ayaa idinku filan ma gudi karno waxa aad mudan tihiin in laydinku abaalmariyo laakiin insha allah rabbul izza ayaan ka rajaynaynaa inuu idinka abaalmariyo waa runtii arrin aad u wanaag badan diinteenna islaamkuna ahmiyo weyn iyo makaano weyn ku leh ilaahayna subxaanahu wa tacaala uu nagu booriyey inaan ka shaqayno waqtigeenna iyo maalkeenna iyo maskaxdeenna aan ku bixinno waxaa la dhihi karaa markii la fiiriyo arrinkan aayaadka iyo axaadiista taabanaya ahmiyada uu leeyahay galabta dhan haddii la akhrinayo ma la soo koobi karo marka walaalaha ayaa ku mahadsan ilaahay waafajiyey subxaanahu wa tacaala waan uga mahad celinaynaa haddaan mahad celin ka soo laabto waxaan rabaa ugu horeyn inaan naftayda iyo naftiinaba aan u dardaarmo ilaahay cabsidiisa subxaanahu wa tacaala taqwada rabbi subxaanahu wa tacaala xaqiiqatan taqwada rabbi marka laga hadlayo qofka ku sifooba taqi inuu noqdo ma ahan qof sahlan waa qof dadka wax dheer waa qof miisaan weynin badan leh amaam allah ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa cinda allah qof aad ugu weynin badan waa qofka taqiga ilaahayna subxaanahu wa tacaala in badan ayuu noogu baaqay nabigeenna calayhi salaatu wasalaamna nugu booriyey aayadda aan ku furfuranay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuuna leeyahay isagoo kalimatul iimaan noogu nidaynaya yaa ayuha aladiina aamanuu war kuwa alee nebi rumeeyeenow kalimatul iimaana la isugu nideeyey dadow maaha waa iimaan dadka ilaahay rumeeyeenow ittaqullah ilaahay ka cabsada ilaahay ka cabsada marka cabsida rabbi sida ilaahay looga baqayo in badan ay ka hadlaan culimmadu waa arrin aad u guda weyn waxaa lagu soo koobaa imtithaalu awaamirillaah wajtinaabu nawaahiih in la fartoomo amarada ilaahay subxaanahu wa tacaala in laga reebtoomo wax kastoo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu naga reebay waa arrin marka aad u guda weyn maxaa ka mid ah arrinka galabta aan u taagannahay waa ka mid waxyaabahana la amray midka cagsigiisa ahna waxyaabahana la ka reebo ka midi lianna ilaahay subxaanahu wa tacaala muxuuna leeyahay watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan iskaalmaysto waxaad isu kaalmaysataan biriga khayrka samafalka isu kaalmaysta iyo alla ka cabsiga oo waxaa ka mid ah marka ilaahay subxaanahu wa tacaala suuradda dhammaan aan jeclahay inaan wada garanayno suuratul casri aadkana u gaaban markii la fiiriyo suurad ahaan iyo aayad ahaan kooban laakiin wax aad u weyni badan xambaarsan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay waalcasri ina alinsaana lafii khusr insaanka wuxuu ku sugan yahay ilaahay wuxuu leeyahay casriga ma ku dhaartay khasaaro insaanku khasaaro ku sugan yaa laga soo reebay ila aladiina aamanuu kuwa ilaahay rumeeyeen maahane wa camilu saalixaat camalka wanaagsan sameeyeen acmaasha wanaagsan sameeyeen acmaasha wanaagsan maxaa ka mid ah way fara badan tahay laakiin waxaa soo gudagelaya silatul arxaam qaraabada la xiriiriyo macruufkoo laga shaqeeyo
munkarka oo la reebo khayrka oo la isku booriyo dadka taagta daran iyo dadka ehelka oo la saacido way fara badan yihiin xuquuqdii qaraabada oo la guto ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay wa aatida alqurba xaqahu wal miskiin واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى انت إلى أمر وهذا قرابة إن لحرير يبران فيرنه وآتي ذا القربى حقه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى حديث النبي عليه الصلاة والسلام وحوها قفك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر حديث غير قيب كمد أول ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه قفك إلهي هم يمانة آخر قرابة حريري قرابة دي حريري إخواني في الله وقتي وآدنا أكوابنا ودريما يوم موضوعه فنتي meeshan munaasabka oo aad iyo aad u wanaagsan in loo sii dhaxgalo waqtiga una saamaxayn anigu haddana ahal u ahayn wujuuhdan quruxda badan laba cudur asugu kay darsan runtii oonan galabta la hadli karin mid waa farxad oo farxad aan la soo koobi karin waxaan la yaabanahay wujuuhdan waan ku mashquulsanahayba iftiinka badan oo nuurka badan dhinac walibaba oo haddana wada ehelkaygii ah oo qaraabadaydii ah oonan galabta ka hor in badan oo ka mid ah aanan arkin waxyaabaha aan ku mashquulsanay ka midtoo laga yaabo inaan wax badan aan geesta uga dhufto maasha allah axbaabi ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan mar waliba u mahad celinaynaa nicmadan weyni ka badan oon la soo koobi karin waxaan rabaa wax yar waxaa la yidhaahdo tacaawunka iyo iskaashiga iyo qaraabo xiriirinta ajarkeeda oo aad u weynin badan waa wax laga doonayo qof waliba naftiisa inuu ku tarbiyayo waxaa loo yahay qofka naftii oo amaaraa iyo shaydaankii oo cadow ku ayaa la xiriira maadaama ay tahay arintaanu arin aad u weyn badan oo ahamiye weyn xambaarsan ajziga iyo culayska salaada iyo soomka ay saarayaan nafta amaara bisuwa oo ilaahay ku tilmaamay iyo shaydaanka sidoo kale culayska waxyaabaha ay saaraan waxa kamid ah arrimaha saan oo kale u weyn oo u qaaliga in laga qayb qaato oo wax laga sheer gareeyo oo qofku waqtigiisa iyo naftiisa iyo maalkiisa ku bixiyo waxay ka mid tahay nafta in lagu tarbiyeeyo oo dagaal lagu siiyo ka mid ah afarta noqdo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala oo suuratul casr uga hadlay oo ka soo reebay dadkii la yiri way khasaareen insaan oo dhan khasaaray illa alladina aamanu wa kuwa ilaahay rumeeyay mahane hadana waa aamilu saalihaat amalka wanaagsan sameeyeen wa tawaasaw bil haqq isu dardaarmay حق الله يصدر دار مأرن كان وكمل سجارة يضو عمل الصالحات كمدة أيو سجارة إليه سبحانه وتعالى إن حق الله يصدر دارهم وخير كل سوشيو وتواصوا بالصبر هذا صبر صدر دارهم وأرن مركة آدو قالية إلهي سبحانه وتعالى هالنوافجيو أنت كسر شقيدنا إلهي أجر بدنا ورجيننا وحنا كرجيننا إن السي وضعنا ماشي كسي وضعنا نبينا عليه الصلاة والسلام وحويلي كمدة marka laga hadlayo silatul arham qaraabo xiriirinta waxa laga yaabaa qaraabada inay xitaa badan looga baahan tahay aan meel dhow anagu qaraabo ka dhiganayno anaga marka naloo fiiriyo dad aad isugu dhawaana hal qoys aad u sii hooseeya laakiin qaraabo ma dhow Soomaaliya dhan qaraabo noqonaysa nabigeena kaleey salaatu salaam baa loo yahay Masar ciidan u duulay wuxuu ku yiri qaraabanimo ay gala dhaxaydeen hal ilaaliyo Masar oo dhan dawladda lagu ilaaliyo waa gabadhii Maariyatul Qibdiyya oo nabiga kaleey salaatu salaam xaaska sayd oo wiilka Ibraahim ha nabiga dhashay kaleey salaatu salaam Masar oo dhan qaraabnimo lagu ilaaliyo gabadhaas anaga marka midii nasleeda u dhalanay anagoo is dhalnay intan waxa laga yaabaa hadii magacaas awliiban laga soo tago sida kale hadana la isla dhashay oo ama musaaharada ama maaratay wada dhalashada iyo abtiga kibina iska daba wareegayna wala is dhalay
wax la soo koobi karma mid walbana waxay rabtaa xaq gaar ah si loo sii ilaaliyo nabi wuxuu alayhi salaatu wasalaam dad badan waxaad arkaysaa markaad la sheekaysato oo arrinkan ka gaabiyay waxay ku sheeganayaan waxa kamid ah qofkaas uu xumeeyay hadda ka hor sidaas ii yeelay ama qowl ama ficil waxba ka tirsanaya uqdada ku jirta wuxuu nabiga alayhi salaatu wasalaam qaraabo xiriiriye lama yiraahdo qofka u beegtoomo macnaha qaraabo xiriiriye lama yiraahdo qofka u beegtoomo kana si wanaagsan kula hadlay kana wax ku siiyay kana hadal fiican ku yiri xiriiri mid kana xoogaa hadalku kugu adkeeyay ama hadda ka hor dhacdo sidaas jirtay gooy sidaas ma qofka qaraabada qaraabo xiriiriye waxa leeyahay nabiga alayhi salaatu wasalaam qofka qaraabadiisa ay gooyeen oo qofkii qaraabada isaga oo gooyay oo wixii uu ka mudnaay oo ka waayay hadana xiriirinaya kaas qaraabo xiriiriye la yiraahdaa waa arin weyn oo sahlan guda weyn waa arinkan marka ahbaabi fillah jazakumullahu khayran jazaa nawafajiyo sida ilaahay subhanahu wa ta'ala raaliga ka yahay amal wanaagsan oo ikhlaasana Allah nooga dhigo arinkana xiriirkan iyo maartay iskaashigan iyo isxiriirintan waxay la tahay way jirtay laakiin heerkan iyadoo ah ama noocaana way nooc cusub tahay waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu noo si sara mariyo galabtay waxa weeye inta fadhida marka la fiiriyo dhalinyarada jiilkan ah oo reeliban dadku waa jiil laakiin jiilka hadda xiriirkan iyo hawshan wata waxaan u maleynayaa ana odayaalkooda kamid ah magaalada hadii la tago Soomaalida waxay dhahan markay dadka ku cabirayaan tira badni washii la tuuro qof la'aan ma dhacayo macnaha washii meeshaas lagu tuuro qof la'aan ma dhacayso waxaan dhigi karnaa dhalinyaro reeliban hadii la yiraahdo waa sidaas oo kale ilaahay na badiyo subhanahu wa ta'ala waxaana dadku hadda ku duceystaan ilaahay nagama dhigo yiraahdaan intii istaqaana ilaahay nagama dhigo ducadii ka mid tahay lagu duceysto intii istaqaana ilaahay nagama dhigo dadka istaqaana wadada aad u kooban hadda ka hor waxa dhacday oo ka qayb galay shir galabtana sidoo kale aan dareemaya inkastoo heerkaas ayna gaarsiisneen ay dhiganayeen markii liibaan laga soo tago yarkii hore oo iga horeeyay muraasilka xiriiriyaha uu istaariifiyay aniga laakiin ninkii iyo waxa ay taariifiyay waxa la inta sadii la sheegay waa xogaa way ku filantahay jufada la yiraahdo Reey Bakar Liibana dhalinyaradu sidaan oo kale inta is abaabuleen meel ku shireen hadda koor marka shirka ka soo qayb galay telefoon ana la ku hagay aniga rag kale isla soconay nin baan hagayo soo ayna halkaas soo istaaga halkaas imaada ninkii hagay waa isaqoon waa niman magaalada isku naqaano Soomaali weynta isaga midnahay markaas ka horna safar aan wada galnay oo ilaa gobolada dhexe Muqdisho isla safarnay si guud oo Soomaaliman isku naqaana warninka iraadina ma adiga tan isku bilowna meeshii markaan tagana waxaan ugu tagay wajiyaal kale cusub oo magaalada aan macaarif guud ku ahayn oo Soomaali qolkiina aan garanay marka waa xaqiiqo dad badan oo magaalada isku arki jiray oo mucaamalo jiray laakiin aan family isku aqoon inta badan dhalinyaradu waxay u badan qabiil isma weydiiyaan inay galabta meeshan ku kulmaan waxa soo gala wiil iyo gabar magaalada maartay isku yaqaanay oo isku jiro isxiriirin jiray oo iskugaansan jiray inay meesha isla soo fariistaan oo isku maleynayay inay bariyo koonfur ka kala yimaadeen maadiga inay ka dhacdo marka way dhacaysaa runtii macrifadan aad u yartahay ikhwata al-izaa waxaan rabaa amthila carbeed oo ka hadlaysa مواضيعنا إنا وحير الله وذاقه وحير هذا أنا قبيل مركز الله هذا السيدان وكله قف كير هذينا أو لبعطانا يوحكم ذا تضوذ ونكسن ونعينين ونقوينين وصيد أو ربع يلي إنه حلو وواح مستحيل إنه قف كدور هذه وحير هذا من ضلب أخا بلا عيب بقي بلا أخ قف كير هذه ولا الآن عيب العين ولا الآن أقول عذر أنا وحان ربا ولا في عن أو حريرية ووحان وقبع حضو عن كهله أيام هذين يقف كير هذا ونفسي سكون مشغولية ولا الآن أقول عذر من ضلب أخا بلا عيب بقي بلا أخ ولا الآن بقول عذر حدي مركب ولا الكي كل شيء هو النقطة
walaal aan wanaagsanayn oo booskii iyo makaanada kale taan kaaga soo bixin waxaa loo baahan yahay inaad ku wadato sida uu yahay ku qaadato wadan marna dhigin Soomaaliyeed aan farta xumo filfil kaaga ma harto arabna waxay yiraahdeen anfuka minka wa in kana udun sankaada adoo ka tirsan adoo dhega ku noqdo ana san dheg ah oo inta la soo fujiyo dheg halkan lagu saaray fool xumadiisa maxaa ku tilmaami lahayd ana sankaada adoo ka tirsan yahay wa in kana udun adoo dhega ku noqdo inaad tiraahdo sankaygu fool xuma aniga waxa la igu rakibaysan fool xumo badan oo dheg u eg waxay ku soo kordhaysaa male macnaheedu wuxuu yahay walaalkaada kula dhashay oo qaraabada kula ah nooc walba uu yahay madaxa saaro sidoo Ilaahay u sameeyay adiga ma dhiigga dhacaanka inta ka bedel hadda sameynaysa adiga waxa lagu amray inaad xiriirido sida uu ku qaadato marnaba oo fiican ku yahay adiga marka أحبة العزاء آدم رسول دوينيا ولا لها دمانتودا وحن كفر أحسن هاي رنتي أو جهدا نور كبدن أو جلبتي أن هرتا جن هاي وحرنتي حجانا قبا عذر كسر هورين كوشة قبا عذر ليرا بقبقة ونحن حو وجرا قبلها راس كأو كده عالين مرة يسكب بقبقة حجا نور الصبي يجوي دريمي مرة وين نحن حالات سيته marka hadda hor istaaga bulshadana xoogaa waa kan naxnaxa hadana waan isku bogboga inaan tolkaygi walaalahaygi dhamaan aan hor taaganahay laba arriban galabtay xoogaa yar rag ila fadhiyo kula kafta waxaan idhi gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenka aan galabtay caleemasaarkooda u fadhino runtii aan soo dhaweynayo waxaa nimayo markay gudoomiyaha gudoomiye ku xigeenka la soo xulay gudiga dhalinyarada ka soo xulay ma waxay ku xuleena ay quruxda iyo muuqaalka wanaagsan rag baa kula kaftamay marka gabdhaha waxaan iraahday nimayo ilaa gabdhaha qurquruxda badan oo magaalada dhanba ku shidan taayo aan indhaha ka daba taagay dhagigood waa gabdhaheeni intaas galabta iga fakatay waa gabdhaha iyo gudoomiyaha ku-xigeenka galabta iga fakatay marka aad baan u soo dhaweynayaa soo dhawaada dhammaan mas'uuliyiinta kala duwan walaalkeen gudoomiyaha Nuur Xirsi Shadane iyo walaalkeen Maxamed Adaawa Maxamed Xirsi iyo mas'uuliyiinta kala duwan oo dhan heerarkooda kala duwan waa ka xumahay inaan gadaal hore inaan ka bilaabo la rabay way la fakatay waan ka cudur daarna waa mahadsantihiin soo dhawaada gruupka amirood maraan hadal yar ku soo darsaday xogaa oday iska mashquulsan magaalada ku fogaadanahay mar dhifaan marka gruupka soo booqda hawshan markii la soo gudbiyay waxaan iri caana ciiraha la diro caana ciiraha la keeno rag baa waxay dhaheen caana boora diyaarsan marka caana boora marna waxaan iri diyaarada la soo saaro hal diyaarada oo caana ciiraha la keeno si aan ugu daadin caana ciirtaana waa loo baahan yahay si aan ugu shubno gudoomiyaha iyo gudoomiyaha xigeenka sallallahu alayhi wa sallam aad iyo aad u mahadsan yahay sheekha waxay nagu xigi doontaa gudiga iyo gudoonka reer Liibaan waxay leeyihiin gudoomiye ku xigeen iyo waxay kale leeyihiin xogaaye madaxa maaliyadda iyo group la shaqeeyo markani waxaan ugu xigi doonaa gudoomiye ku xigeenka gudiga reer Liibaan Ahmed Warsame Ali Adaawe dhammaan dhalinyarada reer Liibaan oo meesha fadhida rag iyo dumarba waa idin salaamay salaan kadib anigu hadee kulli meesha waa la soo istaajiyay soo istaajinta la soo istaajiyay la ima soo istaajin inaan ama sheekh ahay ama aan oday ahay waxa la soo istaajiyay inaan ka warbixiyo gudigan iyo kulleeytaba mashruuca maanta aan u fadhino meesha ka soo agaagumay xilliga soo agaagumay waxa looga goleeyahay dadka macnaha xilligan soo agaagumay ama sameeshaan magaca odayaasha oo ah oo ku magacaaban inaan idin kaga sheekeeyo oo in kaga sheekeeyaan marka baarkiga ay soo istaagay marka sheekadaas aan rabaa inaan idin bilaabo cilmiga in kaga sheekeeymaayo laakiin wixii macnaha aan goobjoog ka ahay oo meeshaan loo aasumay oo inaan kaga sheekeeyaan rabaa marka koowaad marka aan horta magacayga ka bilaabo gudoomiye magacayga maan xoogaa aan xiriiriyo xoogaa marka magacaygu soo qaboway aniga magacaygu waa Cadaawe Maxamed Xirsi Warsame Jibriil Nuur Ismaan Liibaan marka naanaysta idin aado aabahay waxa la yiraahdaa Maxamed Faruqi marka naanaysta awowii Liibaan idin aado xaqiisa waxa la yiraahdaa Xabow Liibaan marka xabowgaas ayaan dhaxan waxa dalana xoogaa ka diriro oo iraado wariyada xabow maxaa noo tiraadeen
rag marka waxay la xisaabtamay rag liibaan kamid oo iyaguna goobta fadhiya ay la xisaabtamay waxa la yiri niyow innaka maalin kasta waxa naga tilmaamaa dabagaab iyo dabaxiir iyo waxyaalahaas aan la yiraahdaa kama diriri kartid wixii awooyaasha isku naanayseen kama aad diriri kartid marka waa iska qaatay oo waxay noqotay arrin noqotay marka magaceeduna waa kaas waxaan kala hadli rabaa inaan idin sheegana waa inaan idin tuso macnaha groupkan dadkii macnaha ama gudoomiye u leeyahay ama gudoomiye ku xigeen u leeyahay dadku intay ka kooban yihiin inaan idin soo bandhigaa rabaa walaalayaal gudoomiyahan kaga bilaabaa gudoomiyuhu waa Nuur Xirsi Shidane Muuse gudoomiye ku xigeen Cadaawi Maxamed Xirsi waa aniga idin hortaagan gudoomiyaha maaliyadda علي أحمد حسن أوري شوغا شرمل كليرا قدومي كحجين كمالية مهد شرع عبد الله قدوميها قدي الصورة دا أحمد عثمان قابل قدي الصورة دا مريم ورسامة قوليت حسين فارح محمد كوريك عمر محمود راقي عبد الكريم فاضل آذن محمد عبد الله قرحية محمد عبد القادر قوليد أسامة إسماعيل حاشي قدوميها قد أفيانكيسا ninka la yiraahdo Saciid Daahir Cali Rooble jooga magaalada Qaahira walaalayaal horta dadka dhamaantood xoogaa waxaan malaynayaa telefoonka codkiisa waxa iga saaran kale far yar waan seerseeriyay marka dadkii hadda waxaan gafgafanahay la igu qaato oo abtiriska iyo waxa waan gafgafi karaa oo ma aha wax qalbiga igu yaala ma wax telefoon ku yaala marka walaalayaal raalli hal iga ahaado dhamaanna waxaan malaynayaa wixii naga dhimanaa kulay taba hadee xiriiriyaha wixii u xil saarnay oo noo soo gudbi doona assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh horta waxa aad iyo aad weyn una qaaya badan qabiilka reer Liibaan inuu ka kooban yahay inuu leeyahay dhalinyaro aad iyo aad howlkar u leh waxa jirta abwaano waxa jirta dhaqaatiir waxa jirta injineero waxa jirta aqoon-yahano marka wax walba inaan sameey karno horta waa aaminsanahay sanadada soo dhow inaan ku guuleysan doono waa inaan qaban doono madaxda dalka taasna aad iyo aad u bogaadinayna okay marka aan sii gudubno markaan maadaama aan leenahay hal abuuriyo wax walba sameey kara wax walba abuuri kara markaan waxa ugu cayaa abwaan maxamed cumar oo noo soo jeedin doono tix yar oo gabay dhammaan gudoomiyaha madasha ama jufada reer Liibaan ee la yiraahdo Nuur Xirsi Shidane iyo sidoo kale ku xigeenka Cadaawi Maxamed Xirsi dhammaan xubnaha kala duwan guddiga shuurada gabdhaha wiilasha wajiyada soo fiifiray aad ugu qurux badan oo idin mahad celinaya waxaan rabaa wax yar inaan la kaftamo qof walba meeshan soo istaaga yani wuxuu u baahan yahay dhiirigelin marka waxaan maleysaa maanta inay dhiirigelintu ku yar tahay sacabku aad ugu yar yahay maanta aniga meesha uma soo istaagin waxaan umaleynaa xiriiriyo inuu abwaan ugu tilmaamo laakiin aniga abwaan ma ihi kulli abwaanin waa joogaan abwaan maxamed dalabo kale waa joogaan waxaan rabnaa marka waxaa jirta groupka kale markii la aasaasay ama la sameeyey tixiro gabayo aan sameeyey kaliina kama hadlayso kuma koobna dhalinta reelima dhammaan kuma koobneen aniga waxaan iska ahay qof iska dal jecel sidaas darteed marka gabaygu wuxuu taabanayaa in dhalinyaradu ay is xasuusato sidoo kale ay kaliya ay is xasuusane dalka inay xasuusato oo yaani aan noqono dad isku duuban dadku markay isku duuban yihiin dalkooda wax u qabtaan Soomaa sidaas darteed marka waxa jirta oo maleynaa dad badan oo ka tirsan ururka ama yaani ku jira groupka oo haddana dalal shisheeye jira waxaan ka codsanaa marka media kale waxaan ka codsanaa gabayga inaan badanaa banaanka loo bixin sababtoo ah waxa laga yaabaa inuu taabto dad yaani dalka dabadiisa jira inaan leenahay macnaha aan ku boorina war dalka maxaa uga tagteen inaan dhahan laga yaabaa oo dhowtay yaani halkaas uu dhibaato iga timaadeen bal insha Allah la cimaamado
marka insha Allah waa iska sii waxa baansad xogaa waa iska dheer laakiin maayda waqtiga uu gaaban yahay waxaan ka soo qaadan doonaa insha Allah beejka ugu muhiimsan ka soo qaadan doonaa insha Allah dadan gabayay antan materin didibiyadeediye hayeshe darban maahiyan garasha dheerayne waxaan dhageeyo waxaan dunida dhowraba dhammaantood waxaan soo helaan soo bandhigayaa dirta eebbahayno baxshood dhaw taqaanaanba dhumood murjaaniyo mareer dhabiga lantiisa haddii dhowr bilood ama sanad dhibicba ay weyso in caleen ka soo dhaadhacda waa waxaan dhicin dhirifsane waraabuhu hadduu doola dhaalan dhoolo dhul cilaa isagoo maradoxa dhaabarkeeda haddii dhowr laxad ama riyaad eebba dhuugan siiyo inuu nabad ku dhaafaa kolley waa waxaan dhicin dhaqashada adduunyada haddaanu suyaara dhowrno dhadhan malaha caanaha haddaan dhisha loo cuyne haddii weel dhusuqa lagu lison hortu dhaalan dhoolin in martidu ku dhaashtaan kolley waa waxaan dhicin dhulkeennuna inuu qani yahan dharku maarayaye barwaaqada dhextallana nilihi kama dhaqaaqeene dhaydiyo wuxuu cabi lahaa cirdhanan badane markaasoo la dhantay lahaa dheemantii dumar dhulkeennana haddaan loo dhaxiran dhabarjab weeyaane dhallinteen nimantay sidaan waa dhowxuuma weyne dhallin dhaqaamadeedii tahriib dhiibsataan nahay dhallintii dhulkii hay leheed dhaawacdaan nahay dhallinteen nimantay dhulkan waan ku dhaaqanaye dhuryaaga cadowaa u halis dhaawacii yaqoone inaan dhowrna daaye bulshoy dhowshanahaye dhaqankiyo hidihii aan lahayn dhalan rog weeyaane dhaqankiyo hidihii aan lahayn dhalan rog weeyaan aad iyo aad umaasantiin ma rabo inaan sii badiyo sidaas darteed marka insha Allah abwaaniinta joogana dhammaan waxaan leeyahay wixii aan dilqaaf samey insha Allah ka raali noqda waa maasantiin dhammaantiin sinyaa abwaanka markan waxaan ugu xigi doonaa guddiga dhalinta reer Liibaan afka dhalinyaradan ku hadli doonaa أحمد عثمان كوبلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله ليال وما سنتين أمانتين إذا هنتين ودنبا ويلي يقبلوا أولا ما شاء الله كسلامية ودومية اللي يرتع خير ليبان نور حرس الشداني وحن كله كل حكينا إياه ودومية كل حجين كعداوة محمد حرزي وحن كله كل حكينا إياه لما أبوانين تدن أو شرفتي قيمة قدرين تلاه ما يشكل سوقي بشيء waxaan kaloo ku xijinayaa macalinka baraarujinta aad iyo aad ugu qaabilsanay ilaahay carabkiisa afkiisana bariya bogba Allah kaayo dambigiisana dambi waaridkiisana Allah dhaafo dhammaan inta kale oo bahweynta meesha ku jirto ayagana waan salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa hooyooyinka gabdhaha dhammaan in allaale intii meeshan xalfadan sharafta iyo qiimaha la ka soo qayb gasho dhan waan salaamayaa walaalayaal horta aan war badan ma aqaan iga raali ahaada balse hal maado oo baraarujina ayaan meesha ugu yimid dadkan xogaa waa ugu aqoon liitaa runta markii la isku sheego walaalayaal dadku aad iyo aad u kala daadsan yihiin waa kala furfuranahay waxyaabaha dadka maanta jira markaad aragtid bulshada kale ama aad dhaqamadooda fiirisid ama waxay ku dhaqmayaan aad fiirisid iyo waxa anagu aan ku dhaqmayno xogaa way kala duwantahay aadan u hooseyna maaragtay dadkana uma aqli yirin uma aqoon yirin uma maskax yirin balse waxa keenaysa waxa way xiriir laanta qofkuna hadii aan ehelku uusan is xiriirin wax walba oo dhan iyo wax walba oo dhan la isku sheegi lahay iyo wax walba oo dhan la isku maaragtay iska taabi lahay ama la iskala talin lahay ma jirayaan mana dhacayaan laakiin markaan isku tubanahay oo aan isku xiriirsanahay oo hal meel aan ku wada mideysanahay waxyaabo badan oo faa'iidaan kala macaashi karnaa sideeda bilmetel waa aragteen waab markii la dhisayo
bilaa tiir la'aan lama dhisi karo tiir udubdhaxaada in inta loo taago markaas kadib la sameeyo lagu wareejiyo ay noqonaysaa horta gudoomiyaha waxaan leeyahay midkii tiir dhaxaadka Allah ka dhigo midkii taliyo tanaad Allah ka dhigo midkii tobantub ku guur Allah ka dhigo dambigaadii dambi waaridkana Allah dhaaf hal mid gudoomiyaha hal mid aan leeyahay gudoomiye dadku waxa la rabaa inay ku xisaabtamaan markii Ilaahay aqal uu ku siiyay maskaxna Ilaahay uu ku siiyay waxa la rabaa adiga awalan inaad iska bilaawdid qof waxa horta u tali kartaa markaad adigu isku talisid ayaa dad u talin kartaa horta marka koobaad in adigu qalbigaada nadiif ka dhigtid markaas kadib dad kale qalbigooda hanan kartaa waa maasantii markaas kadib dadka qalbigooda hanan kartaa waxaan kaloo ka codsanayaa inaad ku talisid mar walba dhan wax adigu aad eedid dhamaanteen inta meesha ku jirto dhanna oo madashan u taagan ama maamuuskan iyo maharadan wanaagsan inay rabaan hormariyaanba ay eedaan inta naga dambeeyeen ay maadiyaan nin walba taas ku xisaabtan hadaa wiil tahay hadaa gabar tahay taas inuu qalbiga qofka gulaantan galo hadii dadku waxa laga yaabaa deertan inay dhahan ninku ma dhaho waxa dhamaanteen aan wada macaashan ma wada macaashi karno runta markii la isku sheego waxaan ku wada macaashi kirin annaga aabiyaala naga horeeyay oolaa ka sii horeeyay Soomaalidu waxay tiraahdaa oolaa ka weyn ilmana aabahooda ka weyn dadkii hore naga soo horeeyay soo talinayay waxyaabo badan ay u soo dhabar adeegeen maanta alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay baa mahad iskale meeshaana ku nimid oo ku joognaa waxa la rabaa wixii soo dhabar adeegeen in annaguna u dhabar adeegno sideedana ninku haduu maaragtay iska jilcisan ama uu maaragtay waxyaabii walba ama go'aankii ka soo dhan oo iska qaato waxba ma hirgalayaan waxa naga la rabaa waxa anagu ilmaha naga dambeeyay ay ku mahadi karaan waa in anagu samarno oo aan adeegno hadda waxa laga yaabaa intiina qof walba jaaris u lahay waqti buu lahay waxa laga yaabaa hooyada guriga inay ka soo tagtay waxyaabo badan xafidii loogu baahay waxa laga yaabaa idinku in xalfada kale ka qayb gali lahaydeen oo ka soo tagteen waxa soo dhan dantaan aad soo deeyday hadii dantaan aad u soo deey lahayn in isku imaalaheed ma leh intaan marka waxay iskugu timid oo anagu inta dambe ay ku mahad galada waqtiga aan bixino way waqtiga aan bixin ay inta dambe ku macaashayaan marka walaalayaal waa maasantiin ilaahayna laga baqo marka koobaad hal iscafiyo horta taas ay idin sheegay hal iscafiyo dad iscafiyay oo qalbigooda nadiif oo yahay oo ilaahay ka cabsanayo markuu sulx wanaagsan laga shaqeynayo ama aslax wanaagsan laga shaqeynayo aslax baynu naaska marka laga shaqeynayo dad qalbigooda nadiifta ka shaqeyn karo waxa meesha anagu aan iskugu nimid waxa waaye waa midnimo inaan midowno dad walaala aan nahay hadda in kastoon ciifo iyo cudur midna aysan dhaxoolin kala daadanashada dhax taalo iska warqab la'aan dadkuna dad markay sidii isjecel yihiin waxa laga rabaa inay is xariiriyaan kulamadooda bataan iska warqabkooda bataan ka baahan si gaar ah loo eego ka xanuunsan si gaar ah loo eego ka dhibaataysan si gaar ah loo eego waxa laga yaabaa intiinaan in qaar jaamacada ka shaqeey ku jiraan in qaar maartay meel kale ka shaqeey jiraan kuwa farmashiye kale jiraan bilmatal aniga haddaan xasuudo aan xanuunsado dhaqaatiirteena dadka kama aqaan daktarkii qalayay ama ibukaan bixinay haduu ina adeerkii oo asoosan aqoon ilahay ya iimaha baa garbixi karo laakiin markii oo yaqaano oo iyaha garbixi kara hadda bilmatal abwaanka maalan raba xalfad inaan ka qabto hadaanan aqoonin oo san meeshii ii joogin waa dib badan tasan ku soo helo laakiin markaan dad isku duban oo isku xiran aynu nahay oo tiir dhaxad leh inta kalena waabkii ay tahay wax walba dhan waa ka guulgaari karnaa walaalayaal xiriirkeenu ha bato aan isbaraarujin ilaahayna ha laga cabsado mar walba dhan qolfka qalbigiisa ha nadiifiyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa maasantii waxaan ugu xigi doona adeer Cabdulqaadir موسى حاشي فلنا السولوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما وين السلام قرابو runtii aniga waa kulay bogaadin aan u maleynaa dadkan quruxda badan ee qaraabada meeshaan isugu yimid nidaamka samaystay ku talagalay inay dadka bulshada ay la nool yihiin ama mataqaana inay dhinac socdaan ama ka hormaraan runtii aad iyo aad u bogaadinaya gudoomiyaha iyo guddiga gudoomiye ku xigeenka iyo sidoo kale guddiga kale maaragtay la sameeyay intaba si aad iyo aad waan in la shaqeey doonaa insha Allah marka anu waxaan leeyahay meeshaan laga wado meel qurxoonad maraysiin kulli waxaan isleeyahay in badan waxaan loo dhabar adeegin ama aan lagu dadaalin ma meel maraan ama horumar laga ma gaaro qof walba fahmi karana isku xirnaanta waxa ay tahay iyo in la isku xirnaado waxay keeni kartaa in mataqaana horumar fiican la helo
marka anigu intaas ayaan ku soo dhaweynayaa qaraabada dhammaan si fiican ayaan u salaamay culimada waxa weeye macalinka oo kale runtii arinta aad uga hadlay waana maqlayseen qaraabadu meesha ay tahay dadkana waxa la rabaa sida xaqiiqada in loo fahmo waxa la isugu yimid inay tahay arin qaraabo arintan haday qaraabada la yiraahdo qof walba kulay macalinku wuxuu ka hadlay in waxa weeye aduu aadan samaysan karin walaalka aad xumaada laakiin Soomaalida mahmaayo ay leedahay jirto waxa la yiraahdaa ma taqaana dadka fiican wadiska ma rabaan laakiin kuwa leexda ama xumaada ayaa wadidka raba macnahaas wuxuu keenayaa in la kala tagin ee dadku isku xirnaadaan waxaan leeyahay arinta halkan laga wada gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeenada iyo ma taqaana dhammaan gudiga hana la sii ballaariyo hoolkan waxaan is leeyahay hoolku aad u yar yahay markii loo fiiriyo qaraabada dhalinyarada joogta magaalada iyo dadka aan ka soo jeedna intay la egyihiin tiradooda markii loo fiiriyo sida macalinku ka hadlayo ushii la tuuraa meel aan ma dhacdo dad badan ayaa ka maqan meeshan koow iyo laba kama joogno waxaan leeyahay gudigu si fiican u shaqeeyaan midaan ugu xigi doonta insha Allah taala waxaan rajaynaynaa hoolkan maahan mid ka weyn inaan isugu nimaano assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan ugu xigi doonaa doorkii hablaheena hadaati waxaan ka hadlaynaa hal abuuriyo dhalinyaro badan aan leenahay waxa ku xigo kama marnaayeen dumar oo hal abuur leenahay leenahay waxaan ugu xigi doontaa Habiba Shire oo noo soo jeedin doonta barnaamij warahmatullaahi wabarakaatuh dhammaan dhalinyarada iyo madasha dadka isugu yimid aad baan u salaamayaa rag iyo dumar salaam bacdigeed waxaan gaar ahaan u salaamayaa gudoomiyaha gudoomiye ku xigeenka gudoomiye Nuur soo dhawow gudoomiye ku xigeen Cadaawe soo dhawow adna waxaan meeshan ka buugaaginayaa dhalinyarada ama dhalinta reer Liibaan gabdho iyo wiilal adeer iyo eedo dhammaan intii fadhida inta samaha jecel inta wanaaga iyo walaaltinimada ee ku timid ama laf dhabarta ah waxaan leenahay soo dhawaada sidaan si ka badan in loo bataan rabaa in loo soo dhawaadaan rabaa inaan hoolku 40 kan qof oo meesha muuqasa ma aha reer Liibaan intaan kama koobna reer Liibaan inta waa ka badan yihiin waa ku badanahay Muqdisho Gurceel inta joogtinta Muqdisho joogta badan marka waxaan rabaa gudiga shaqeeyahaya inay sidaan si ka bedelan ay u shaqeeyaan waa maadada koobaad way is ogyihiin gudiga shaqeeyahaya oo gudoomiye ku xigeenka ka hooseeyo way is ogyihiin wayna maqlayaan intii joogto marka soo dhawaada Ilaahay subxaana qaadir ayaan uumay ifkana keenay ayaa mahad iska leh gaar ahaan dhalinta reer Liibaan oo isugu timid meeshan ayagana u mahad celinaya dadkii ku soo bixiyay juhdiga adag ee soo dhisaayay intaas soo bilood ayagana si gaar ah ayaan ugu mahad celinayna ama naag ha ahaadaan ama niman ha ahaadaan marka bal soo dhawaada waxaan ku bilaabi doonana wixii aan seegana bal la idul qaato xogaa ay gabyo maayeen macna waa lagu soo tuuray dhalintaani aniga dhanba 3 min aan ka dhex muuqday bal la idul qaato wixii macna deel qaaf aan sheego waxaan rabaa in la idul qaataan doonaya soo dhawaada bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ku bilaabayaa bahweynta reer Liibaan dhalinta reer Liibaan ayaan ku bilaabayaa marka hore bismillaahir rahmaanir rahiim bisi waxaan laga bilaabay nin baraka maale birwayaan oo islaahan ku badbaadiya ebisina loo beela xijaab oo badnaaga share mabaanka bilaabaya maanka maantayay mudana nuur oo waxaan maanta ku qiraa inaad maamusho inaad miska noo fadhido ana mireynta eeda midigtaan ka qiraya maba la dhigahayo maahanka wax laga yiraa mabase la dhigahayo maskaxda wax laga bartaa mabase la dhigahayo sadex maadama islaamida mabase la dhigahayo maca harufta waa mahim gudoomiye Nuur oo waxaa maanka iga qoran murtida mirahaynayaan kula meeliga mudanu soo dhawaa mar hore iyo mar dambaba
soo dhaweynayaa gudoomiye ku-xigeenka Cadaawe oo wiil qaali ugu ah wiilka adeerkay soo dhawow gudoomiye awaladiga ayo cindiga wax laga yeeraa Cadaawe niman culusaya hadda saare ka taay adna hadkaade golahay cida kama dhigin ana hadkaaba anahay caafimaad kuwa Cadaawe midaasan ugu soo gaabaa waxaan kale oo iga codsaday baraambur wiil aan hadda joogin oo maqan oo la yiraahdo Siciid Daahir marka si fiican shacabka loogu soo dhaweeyo codka Siciid Daahir sabaladiga ayo sadriga wax laga yeeraa Siciidow niman simanaya hadmada saare ka taay sareeya liibanaya hadmada saare ka taay anasireentiyo waxaan maanta seeraya anoo sayela dhashayanu howigu dhiriirsayay dhexdiyo dhabarkanaanu howiga dheehayay umase dheeline hadeer baanu dheelayaa edhabaladiga ayo hada halkaygu waa marquura dhalinta liibaanaya hanoo bandhigaya wiilasha liibaan waxahay gaaru leeyihiin liibaanku waa koronkore koya laba miya kornaay la saray qaban karta niman dajiya weelaanan kaftamahaynino kaydaba ay qabaan madfaacada haya madaha qayo dhiganayaan sebeenka salaalahaya saxaabkeeyo dhiganayaan barooniya beeba beerkeeyo dhiganayaan qoryaha siliskale focood bay ka soo furteen kufaani maayo focood waa ku filayeen soo dhawaada alla laga raali noqdo waxaa inoogu xigi doona markaan sayid cumar deeriye ilaahay weynayo horta meeshaan isku kaanaa awalan mahad iskale mahadda labaad waxaa iskale raggii ka soo shaqeeyey intaan oo reer liibaaniya in kaloo maqan oo hadda madasha aan joogin oo kor kala socota isku imaadkan iyo caleemasaarkan raggii ka soo shaqeeyey soo abaabulay ayaa mahadda labaad iskale waxaan kaloo mahad celinayaa gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka qasnijiyaalka iyo golaha shuurada run ahaantii aniga door badan ma aqaan soo boodana waa lagu noqotay hadda kama warqabinba inaan meeshaan istaagayo halaga raalli ahaado run ahaantii marka waxaa waaye inaan iskaashano waxa la isku qabsado la qabsado oo mataqaan ayaa aad u muhiima xabiibana u baxay dhigtay kolleed waa wax walaaltinimo malayna walaalayaal marka waxaa waaye aan wax isla qabsano iskaashata ma kufto keenay tabar yar inaan kor soo qaadno ayaa la rabaa kolley aad iyo aad ayaan ugu faraxsanaa wallaahi maantay intaan iyo in kaloo maqan intaan hadda waxaa waaye intii dhadhaweeda hadda isku imaato maahana dadka maanta caleemasaarka u soo hambeeleynayo ka warqabaa dad badan waaye dad yar ma ahan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal sayid asoo cudurdaaranayo inta kasii tagay dhimalan hadda ka hor waxaa dhacday maxamed siyaad bari asagoo khudbad bixinayo oo wuxuu arkay yar geeskaas fadhiya oo qoslaya maxamed siyaad dabiicadiis waxaa ka mid ahayd markuu khudbada bixinayo in cid kale aysan hadlin qoslin shanqarna oosan dareemin sida dabiicadiisa ka mid ahayd marka mana gaarino waxaan ani aan raabiyo waay xilligaas inaan jooga maahan waa la dareemayaa marka waxaa dhacda marka
ninkii inuu wuxuu arkay ninkii uu qoslayo ninkii marka wuxuu ku dhahay booska adiga fadhida anaa fadhiisanaya adna meesha mimbarka soo istaagay wixii iga qoslisiiyay wixii ka qoslisiiyay ina noo sheegtaa ka rabnaa hadii aniga iga qoslisiiyay waayaan waxaas oo ku xisaabtama wala ninkii marka ninkii wuxuu dhahay marka inuu isfurdaamiyo waa mugti taariikhasi ku dhacday markii sheeginay wuxuu dhahay marka gabar oo deris aan ahayn marka waxa la marka waxay balamisay laba nin oo asiga oo ku jiro marka laba nin waxa balaas ku ah ama ku jiro ninkii qabay aniga waxay balamisoo dhahay hal saac oo habeen ninkii kale waxay balamisay laba saac aniga ku jiro marka waxa inoo yimid ninkii labada saac waxay tiri korgal guriga korkiis ninkii markuu yimaaday asoo la jooga waxa imaan ninkii qabay waxay tirsaa hoosgal ninkii washkii markuu dareemaa wuxuu dhahay guriga shanqar rageedan ka dareemay seebax u jiran soo booday ninkii wuxuu dhahay waxay tir waxaas ma jiraan seebax u daa waxa dhacday marka inuu dhahay ka sar jira wax kasto kiya soo booday aniga oo dhahay asii marka ninkii wuxuu la jeeday ilaahay oo ka waday kii markuu soo boodo wuxuu dhahay ani maxay gartaa ninka hoos ku jira maartay ninka hoos ku jira taas waa iska midaalo dhimalaan waxa uu sii gudgalaynaa barnaamijkeeni waxa inagu xigi doona Dr. Khalid Abdullahi Kaari dhammaan rag iyo dumarba salaamullaahi calaykum salaan kadib rag badan oo meesha soo istaaga ka hadlay mowqacan wixii looga hadlayay waxaan rabaa laba qodob inaan ku soo koobo insha Allah qodobka koowaad mahad celin gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo guddiga iyo dhammaan intii ka soo qayb qaadatay hawshan quruxda badan ee galabta caalamisaarkeeda aan u fadhino waan u mahad celinayaa waxaan leeyahay gudoomiye hawshan waxa laga rabaa in hore u sii wadid insha Allah qodobka labaad waxa waaye gudoomiye waxa jira waaqic aan ku jirno waaqicana lagama iska indhitira karo waaqica aan ku jirno waxa la rabaa inaad naga saartid reer Liibaan waa ogtahay xaaladooda sidaan nahay mararka qaar waxa la dadka waxyaalo dadka wax falanqeeyo waxay dhahaan waaqica dadka qaar waxay iska inda macnaha iska cabsiyaan koolo xaaladda ay ku jiraan xanuunkeeda darteed waxay iska dhigaan inay guriyo dhistaan ayagoo koo lacaba marka xaaladda aan ku jirno ka sheekeemayno dhowr maalin ka hor waxaan ka imaado gobolada dhexe rag ka mid ah odayaasha cidda waan is aragnay waxaan dhahay bal doorkii aan ku lahayn howlaha meelaha ka socda maxay yihiin maxaan ku leenahay annaga waxa ii sheegeen inaan ku qanacsanahay gudoomiye degmo iyo taliye boolis ana taliyaal ciidan taliye boolis aan dhihin intaas inuu hamigeena maanta taagan yahay marka waxaan rabnaa maadaama aqoon-yahano badan soo baxeen rag badan ay joogaan hawshan hawl ka ballaaran la keeni karo waaqica aan ku jirno oo aan kala furnaanta ah walaalkay kaboole aan warkiisa xoojinaa sabab kala daadsannahay kala daadsanaantaas iyo hawsha aan ku jirno inaad u dhabar adeegtid Soomaalida waxay dhahaan qof xil qaaday waa eed qaad waa lagu garaafeynaa waxa laga sheegaa laakiin waxa la rabaa go'aanka marmarka qaar go'aanka wuxuu ka fiican yahay go'aan la'aanta wax yar oo qaladid wax badan oo sax ma ha ka fiican marka qalad la'aan ma noqonaysid laakiin waxa laga rabaa inaad u dhabar adeegtid adiga iyo gudoomiye ku-xigeenkaada iyo guddiga intaas ayaan ku soo koobaa wax badan ma soo diyaarsan waa mahadsantiin waxayna ugu xigi doonaa abwaanada Zainab Faarax oo noo soo gudbi doonta gabadha أولا waxaan salaamaa dhamaan inta madashan ka soo qayb gasho qaraabadeyda waxaan ku salaamaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh intaas daan salaanta uga baxo aniga ma gabiyay miihi laakiin waxaan isleeyahay magacayga meesha laga helay marwada lagu dhaweeyo wadaadayaan deeda qaali bismillaah waayahan gaalaydiyo geeraaradaydi guulaha ka tiri jiray sawtaan ka gaabsaday ha yeeshee gabyaaga iyo ninka soo gobnimo jecel guga maanta nooda ay kama gaabsan karaya waa inaan gorfeeyaa guurtidii tolkaygiyo
gabdhihiiyo cuqaashiyo garmadowda talisiyo culimmada garsoorka madasheena gaarka inta goobta joogtiya dan u gaara kii jira marka hore salaan guud guushu waxay ku xiran tahay annagoo gacmaha iyo sugayna garashada hadaf gaara iyo jirin cuqdadiina kala gelin fikir gaara kii qaba yuusan la iman garab kale haddaad hayso tala guud hala gelin god aqaro adoo guul ku hanan kara taariikhda geli kara gudcur gurisan ha u qabin guddigiisa maayo hadafkiini guulaysay guddigiisa maayo guulaysay hadafkii aynu miidda guranee gaaxdeeda maandeeq gaawaha u soo cula guddigiiyo xibnaha sare afhayeenka gaarka garashiya wanaagga leh gabanada haldoorka aasaaska guushiya raggii gogasha noo dhigay u guntaday midnimadiiyo iskugeynta reeraha garab inaan u noqonaa gogashana u fidinaa guddigoo isgarabsada goolka dhaliya oo kaca kuwaan gelin iskuullada geel iyo ariga dhaqa kuwa dibadahaas galay baahi gaara kii qabo gurigiisa uu taga la gorfeeya xaajada waana mahadsantii aniga aad iyo aad u maseeray sababta hadda sababta la sugaa Soomaan horta hal abuur ma amay abwaan mihi abwaan ma dhalin ya awgeeya hada koor mar aan waay gabay tirjir jiran ala naxariisto abwaan mihi waxaan rabaa marka wax yar oo amaan iska hadii wax ka hadii cod xumo jirtane idinka le waa dhameystira okay waxa kala ma amaan aan gabdhaha kala jeedo waay gabdhii ayaan loo wada gaarida waxa tahay gobtii laga guursan jiray waxa tahay gobtii laga guursan jiray guud ahaan kariim markii diiwaan kaliya maaya waxaan markan ugu xigi doonaa walaalkeen أسامة إسماعيل حاشي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. marka ugu horeysa waxaan salaamayaa gudoomiye ku-xigeenka guddiga fulinta dhammaan dhalinta ka soo qayb gashay xafladda tani aqoonyahanka dumarka dhammaan waan salaamayaa madashan quruxda badan ragga soo agaasimay guddigii soo agaasimayna waan salaamayaa haddaan gudaha u galo hadda waxa loogu yimid meeshana waxa weeye midnimada reer Liban dhalin ha ahaato haday halay dad waaweyn intaba waa ognahay waa ka warqabnaa meel walba saaxad walba meeshaan ka joogno haday halayd siyaasad waxbarashadii dhan walbaba dadkana waxay nagu xantaan in reer Libanku waa badan yihiin laakiin tayo ma lahan marka tayaxumadaas inaan marka tayaxumadan laga sheego inaan wax tusaale dhaba iyo tayo aan ka bixino weey oo aan meesha hadda joogno wax badan ka bedelno haduu xamar haday ahayd haday gurceel ilaa gelinka anagu waa badannahay marka inaan isku xirnaano oo midnimada laga shaqeeyo haday ahayd inta hadda joogto ma ahan dhalintu waa ka badan tahay intaan hala baadi goobka hala badiyo إلهي القرآن كيسن وحكو ليهي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا مركا قرآن كي حديثة يو سنة النبي كان وابورسي من نمدا وحي تاعي مركا من نمدا عن كشقينو رجع وكيلنا عن يانا الدين مسؤولية دي عندنا قربها كيستاجنو وعن هوش الله ودنو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن وحدنا أبوان ضرب ورسمي أبوان ضرب ورسمي oo soo jeedin doona tixyar gabaya in salaam qaraabo dhamaantiin runtii waxaan ku faraxsanahay in aan maanta tawfiiq aan bilownay waa gaarnay lama dhihi karo laakiin bilow inuu muuqdo marka waxaan rajaynaynaa tanta ku xigta reer Liban intaan ma ahan macquulna ma ahan
iga raalli noqdo fulina waa mikrofoonada waa ka cabsadaa marka nimayahow waxa la yiri waa la isoo wacay gudiga isoo waceen waxay dhaheen abwaana waxaan rabnaa gabay marka abwaanimada farta ay ula dhacday wali ma gaarin marka waxaan iri waa aqooway gabay runtii gabay soo ma diyaarin marka anoo hadda raniyo ka walaaciyo laniyo maxaan tiriyaa waxaan gabay ka keenaa kulaha ariyaakii hadda ka hor gurceel ka tirsan ma tirisid hadalkii iiga dhigtaba gardaraa la yiraahdaa waliba rag kale oo halkaan fadhiyaan ku xasuusanahay gabagaas oo Adeer Cabdulqaadir Muuse kamid yahay hadda ka hor intuu telefoon iga soo ciyiri niyo gabagaas aan u baahnaa adeer waa xasuusataan u malaynayaa marka gardaro dhan maystirana inay tirinayaa runtii gabagaas gurceelan joogay gabagaas qaybaan ku leenahay laakiin cayra nala leh habar gidiraa nala leh hawiya nala Soomaaliya nala leh laakiin dhacdadii aan ka curiyo uu ka weynaaday marka gabagaas inay tirinaya igu qaata xarfaane waxba gaar inay ma soo diyaarin gardarro waxaan ku bilaabay runtii maalin fool xunay ahayd qaraabadii aad isku laynaysa gurceel oo dig iyo damtu ka yeerayso reerkii oo hadba dhinac u yaacay dagaal aan hadaf lahayn oo ahay runtii anigu shakhsiyan waa jeclaa gabagaas xataa markaan tirinay waa ku raaxaystaa marka idinkuna igu la raaxaysta waxaan ku bilaabay digaway go'aan iyo laha goodis lagu faano ama lagu gardaadiyo samaan guul la kugu deeqay ama lagu gargaarsado sidii awrta lagu guuro marna sida gamaanka iyo fardaha meel fog lagu gaaro oo lala gabaadsado runtoo gacal ku daawoobo xalay gelin dhaxaadkii anoo seexday gogashayda oo gamaasan jiifka iyo hurdada la guddoonsi anoo gudaha uurka iyo qalbiga gudub u yaalaayay inkastoon ka gaabsaday murtida oon muddo u gooyay kuwa gara maraa jira xaqow gaarka u lahaay oo waa gibi dhacleeyaa ninkaan geesi ku ahayn inuu godad ka tuuraan hubaa weligii gaabshoowe ilaahay hadduu kugu gallado waa si gooniye haddaan gabayadayda iyo murtida soo gudbiyo qaybo ama aan go'aansado inaan shacabka gaarsiiyo asagoo gantaal iyo ka daran gumaca baaruudda oo gariirka meeshuu ku dhaco aad gelgelin moodo oo gumaada guutooyin iyo gaasas kala jaada marna aad gu'moodiye hilaacuunka kala gaaray galka ceel habreed iyo bannaan looga kala guuray oo gelajir buuxshiya dhulkaa geela lagu soofsho oo aan gaf iyo ceeb lahayn maan gobta u sheego waxuu dee gaf ma lahayn gabagana waa boota waxaasoo dhan ma aqaano waa isfaaniye waxaan ogol leeyahana waan soo gudbinayaa ummad yahay garaadka iyo caqliga geedka laga saaray macnaa dhiirigelin u qaata ummad yahay garaadka iyo caqliga geedka laga saaray garab maray go'aankii alliya diinta gebigeedba u guntaday xumaan laga gocdiyo sheeko kala gaara gardarrada gabaadsana hayee gooyay naxariista sida geel naqdaaqiyo caleenbadi gufaacooday uma qalmo ummad yahay garaadkii caqliga geedka laga saaray garab maray go'aankii alliya diinta gebigeedba u guntaday xumaan laga gocdiyo sheeko kala gaara gardarrada gabaadsana hayee gooyay naxariista sida geel naqdaaqiyo caleenbadi gufaacooda oo markay xumaan galabsadaan gaalisada dheela warkuu ganacsi maahiyo midow geel ku dararaaye sidii gabar ninkii qabay furacii la gubanaysa waa nin xundee maaha nin fiican gabadhiyo jeclo fure sidii gabar ninkii qabay fureecii la gubanaysa oo gocasho awgeed ilmadu gaadhay lugaheeda guryan looma baahniya inaad ceeb gorgorisaane bal inaad gab iyo ebertihiin aan xaqa u guulin gobi waxay heshiisaa markii geed la taga weyne guri nabadi taalla caqliga lagu gorfeeyaaye haddii aan gaf iyo ceeb la rabin uun ka kala gaarta garta oo ilaahay taqaan ma wax lagu gooyo haddii ay ka soo gudubto oo la isla garan waayo kitaabkii ilaah nagu galladay maa la gacan saaro afartaa go'aan lagu farxiyo gabay xaqiiqaadheh murtidow ilaah igu galladay gogoldhigeediidheh gugooda ay gufaacada cirkiyo saymo galabeedde inta gala xareedoo gigima labada geesoodde gaaf iyo haweysoo dhashiyo geydhe iyo laandhe afar kaloon gaf iyo ceeb lahayn maa gobta u sheega kulaha wax geediga halkii aan u raray weli ma gaarsiine ma gorfaynin xaajooyinkii goobista lahaaye gunta hadalka sheekada haddaan toos u gudumeeyo ama aan xaqiiqada u galo waad galgalataane marna waxaad gilgilataan sidii goodka halistaaye ha yeeshee waxaan gocanayaan soo gudbinayaa gardarrada garbaha yeelatiyo guuxismaqashiinta gafka iyo xumaatada gurcangooni ugufaanka gabgabtiyo go'aamada naxliga geesinimamoodka gurmadkiiyo gumaysiga jahliga gacalku sooryeynta hadal garasho waayiyo saman gacantogaalaynta markay dumarku guubaabiyaan gobiska yeelyeelka goortay danuub galabsadaan gaadaka ciyaarka meelaan gu iyo roob ku diin goorxundegitaanka guri baay abaar lagu gablamay geedi ugu guurka markay gorofta cayreed toshaan gaawa maraqaadka halgal ayagoo gal joogiya xareed gaajo u hayaanka halgaloo fa oon waaye dhalin
ayax ka sugitaanka markii god iyo ceel xun ilaga oo geeda saralaaca markay gacanta ceeb kula jiraan gaadmo doqomeedka golahoog markay taagan tahay kibir isguufuufka markii gulufku gaabiyo si fudud geyra shacabaadka markii xaaja gobo taagan tahay guura bahalaynta gabal dhacaya waa bari dulmiga gees iskula buuska gudcur damay hamiinkoo gab yiri bale isgaarsiinta anaa galiya anigaa gambiyey guul casriyamoodka kala gurista kala goynta iyo ehel garaafaynta gacal iyo sokeeye walaal ceeb u kala geynta laba garab wadaagtiya aqoon hoos isku goynta isku gubidda beelaha isjecel waajib garamoodka kitaabkii ilaah nagu galladay geeska maritaanka intaas oo gaf iyo ceebahoo nabadda loo geystay inaan gam alla sii waayey baan soo gudbinayaaye haddii aad gob iyo ehel tihiin geliya taariikhda guud ahaanba soomaali weyn dooda garansiiya galgaduud iyo gurcaal burtida gooni ugu sheega wahay marka waa mahadsantihiin uma qalmo marka reer liibaan saddex kalmo gabayaan ugu soo talagalay mid afraad kuma jirto iga raali noqda waxaa liyaa reer liibaan manaa cududay oo caama dhagaleeyey maxaa cududay reer liibaan maxaa cududay oo caama dhagaleeyey maxaa caaqilkoodii ka dhigay caji soco waaye maxaa curadyadoodii bahdilay caambaha ahaay asri weeye dunidii maxaa ciilka baday reerka iga raali noqda markaas waxaad samaysaan gudoomiye aadan kugu mahad celinaya gudoomiye ku-xigeenka dhammaan ehelada intooda badan waaridii yihiin marka ilma adeerayaal meel fiican aad ka haysaan halkaas ka sii wada annaguna waa in ku garab istaagaynaa wax la af iyo adinba intaan awoodno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii gabay aniga laftirkiisa u jiito ahay waxaa inagu xigi doona marka cali mahad maxamed الحمد لله رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa shacab isku gaada laba dhin way u gaadeen xirbiyaha runtii waxaan leeyahay waa la yiri culummo iyo aqoonyahan waa loo hadlay hadal ma dhimana aan sheego muhiimaddu waxa weeye dhahayo keliya reer liibaan kulankooda quruxda badan aadan ugu faraxsanahay inaan qayb ka noqdo ilaahay aan iga dhigay magac weliba lagu ducaysto waxaan xasuustaa maamo markaan ardayga ah wax baranayay kastan weli arday ahay yaraantaydii waxay dhihi jirtay markaan iswarsanno liibaane كان هاوس قصر واحد يجري وهذا إيه اللي ما تبي وقت marka magaca ayaa wuxuu yahay magac iska barakaysan ilaahayga marka noo dooraa mahad loo naga dhaliyay anagu maana dooran hal raba marka sharaftii uu lahaa iyo qiimihii lagu yaqaanay inaan kor u qaadno maadaama aan u nahay xoog dariiq kastoo la mari karana aan u marno sidii aan sharafteenna aan kor ugu qaadi lahayn qiimaha nagaan aan ilaasho lahayn halkan hortayda dadka wada fadhiya dhammaan waxay u badan yihiin dad aqoon-yahano ah dhaqaatiir culummo maadi iyo diinaba intaba xambaarsan abwaano nuucu bay u fadhiyaan waxaan baraarujinayaa waxyaabahan la isku dhaafay waa aqoonta xooggiina annaga ah duurkan u badannahay halkii qofba ha isku dayo inuu dad wax baro faamiligiisa hoose ah waxaa la yidhi waxbarashada dhinacaasaan rabaa wax yar inaad taabto xoogaa dhinaca waxbarashadan iska jecelahay meesha bini-aadamka hormarin ayaa tahay إلهي سبحانه وتعالى نقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون علماء أنه شيختي ووضع عند هاي شيخ حمود أخر أول حلي رحين كي لما ننعس مركلين عن ربنا برارجي عليه هذا ممكن رفع يستفر صدام قارئة وحالي أقونتا محيفة إذا لا يلهي حد خلص من الأخير قال ما حسب سؤال شيء اللي يقول دي أنا جروب رسالة سمية هاي نين بروفيسور أول يريد سؤال أسأل إيجاه هي أنا كنا وانكم فرح سنة سؤال أسأل إيجاه المريو واي جوابته وبحدنا وأنا قاعد أقوم بدل واحد بدل نوك ويريد أقوم أنا قاعد واحد قلنا هذا تسأله أقوم
annagaa tusaale u ah waayo waxaad ku fiirisaa buu yidhi wax annaga ay naga bedeshay iyo faamiliga annaga anaa wax bartay rafaadaan wax ku bartay duruuf badanaa maray kadibna waxaan sarfayf gareeyey oon maaragtay kor u soo qaaday qoyskii aniga aan ahaa nafteyda iyo intii ugu hareynaysnayd markaasaan waxaan ka dhigay dad laga helaysto tusaale intaasaa kugu filan meel kale ha u raadinin runtii waxay noqotay wax maaragtay meel aan mari karo oo aan ka dhigan karo raad oo aragtidayda aan usii mari karo waxaan rabaa marka akhyaaray dhallinyaro adeerayaalow walaalayaalow eedayaal dhammaan waxaan codsanayaa runta inaan isu sheegno meesha nagala haysto waa dhanka cilmiga xadaaradda halkaas inooga maqan tahay caqli nagalama badna aragti nagalama badna meesha wax nooga maqan waxaa weeye aqoonta haddaayi waxaan xasuusta maqlayay khayr allah siiyo inkastoo magaceeda aada xasuusan gabadhaas maray faaninaysa wiilyaa saciid waxay tiri geesiyaal hubka qaada hubka waa meeshaan ku baanay hubka meeshaan ku baabaana wey aawo awoyaashana ee aabbayaashana hal toddobaatan jir nooma joogo kulli waa tageen aawo mid kasta laba cunug hal cunug ka tegay islaamiyo wada maaragtay aan weli markay xorteen si loo lahaa geesi baa tahay wuu ku tegay meesha aan ku maqannahay oo dhibaatada naga haysta halkaa weye meeshaan kasoo kabsanana waa halkaa waxaan rabaa marka inaan wax fahmno oon wacyiga aqoonta ku baraarujino oo hooyooyinoo ilmaha la dhalay lagu baraarujiyo aqoonta iyo akhlaaqda cunuga la dhigay wuxuu soo bandhigaa akhlaaqda guriga ka jirta marka wax la barayo macallinana waxaan arkaa ilmaha raaliga ahaad haddaan ku dheeraaday fadlan waa codsanaya mar kale ilmaha waxaa la rabaa meesha ay wax ka bartaan waa guriga 24 saac oo kamida guriga joogaan meesha akhlaaqdooda ku toosto waa guriga ilmahanaga aan ku dadaalno ubadka aan dhalnay aan ku dadaalno kuwa nagu hareeraysan aan ku dadaalno faamiliga naga miyay u badan yihiin dhammaantana markaan isfiirno gadaal isku raacno aan isku dayno qofkiiba hal qof laba qof inuu badbaadiyo dhib kasta baa ku qaadato isagoo ha rafaado sida u lahaa kooble wax annagu aan ku rafaadno ilmaha naguna maxdiyaan annaguna aan eedno kelimadaas waxa weeye inaad adigu hurjoodii badan bixiso kunka shilan markaad 10 kun haysato 10 aad laba u qaybiso mid ka mid ah aad qof ku badbaadiso waayo dadka qaali weeye waxa adduunka u qaalisan waa dad harna marka dadka naga aan ku dadaalno dhinaca aqoonta uga dadaalno fursadaha uga faa'iideyno haddaad heli karto wejigaaga cunug yar oo agoona aad iskuulka ku geyso tiraahdo please cunugan ii qabo waa agoon adigu wejigayga ugu dhig codsigaas aad ku geyso waxaan codsanayaa dhallinyaroy dhinacaas xoogga aan saarno faanka iyo orodka aan kaleeto iyo dhinacaas oo xabadda aan joojino dhinaca aqoontaan u labisano aan ku dadaalno aan dhinacaas aan baraarujinayaa kulankan reer liibaanna waxaan rabnaa inay ka soo baxaan aqoontanada mid wax lagu baro iskuulla aan uga furno deegaanadii aan ka nimid oo miyiga ahaa xaqiiqatan waxaan arkaa bulshadanada culimadooda iyo maaragtay aqoon-yahankooda kaleeto dhammaan waxay soo aadaan koonfur halkaan xamaran guryo ka dhisanaan iska joognaa guryahanagina waa qaraab ilmahanagii gelajiri waxay ku cayaarayaan dhagax tuur ayagoo u kala diriraya ururo macnaha inta u kala baxaya magacyo la kala baxa hadda ka hore waxaan arkay faarax cabdi guuleed khayr allah siinta gelajirteeda soo duuba ayagoo u diriraya new bolis iyo shacab barigii new bolis dagaalkeeda dhaweeye oo qabtooy gaaladii qabtooy gruubka laba gruub u kala bixin macnaha ilmahaas intay dhan yihiin wadayaba tirada wax ka faa'iidaysta oo waxbaraa loo baahnaa iskuulay ka fureen waa laga xiray way soo aweyse ku rafaadeen ayaga xabsi ku galay ayagoo rag dhalinyarada is abaabulay ahaa qarashkooda ku bixinayay runtii dhibaatana haysata wey waxaan marka aada u baraarujinayaa dad waxaan ahay haada camalan dadka ugu soconnaa inaan inta hartay xagga jirta badbaadino annagu insaan kuwa u badbaadin inaan isbadbaadino annagu aan wax baranno dhammaantana inta meeshaan fadhiisa maanta ninka noo weyn waa 30 jir iyo wax la mid ah waxbaan baran karnaa waxbarashadu waxay bilaabataa qofku markuu hooyada caloosheeda ka soo dhaco waxay dhammaataa maalinta uu dhinto nafta ka baxdo inta ka dhexaysa waxbaa la baran karaa fadlan waxa la barto
diinta ilaahay aan barano meesha la isku dhaafo waa halkaas kadibna maadiga aan barano waa ka tabatag waxaan arkaa qolooyinka aan daraskana dhammaan hadda ka hor maxyar aan kaga faa'iidaysan baa raaliyaada nin ka mid ah xildhibaanada ka mid ah weligaas xildhibaan muusan ahayn ayaa wuxuu sameeyey tuulo oo degi jiro wuxuu tegay baadiyaheedii meesha dabadaash ku taallaba wuxuu ka ooday hal qolo jingad ah iyo daash isku dhisay macallin uu geeyey lacagta asaga jeebkiisa ka siiyey ilmaha subaxdii waxay ka imaanayaan duurka ayagoo buwaag wata arigay kasoo tegayaan waxbaa loo dhigayaa duurkii markay cunuga duurka usii socdaa geedaha dhexdooda usii socdaa asagoo bugtiisa wata habeenkii gurigooda aadayaa waagu bari intuu imaanaya waxayba joogaa kabacdina xoolihii wax ka raacanayaan eriyadii u deganaa ilaa iyo konton tuulo meel yara ku taala meesha laba daash ku taalaba iskuul uu ka sameeyey dadkii dhan wax isku bedeleen dad wax wada qora faamilyo kaloo ka shisheeya ilaa gaalkacyo qolyadaas ree cadaaday ahaayeen iskuullo weyn cadaada ka furan maktabada ka furan wada shaqayn oo la socday hadda waxaa ugu dambeeyaan ognahay sheekh maxamed cali abshir waa taqaanaan marayna masaajidkan jooga mar kasta maalin alla keena ugu baxaa markuu 2 isbuuc joogo baxaa wuxuu aadaa gaalkacyo jaaliin magac la iskugu tageen waxay sameeyaan waa nin la yaqaano wixii loo soo dhiibay deegaanka u tagaa iskuul ka dhisaa dugsiyo ka dhisaa dadku waxay baranayaan muhiimad dadkan wax bartaan weeye xarna marka insha Allah meeshaan waxaan hambalyeynaya guddiga sida la sheegay waa ku beelgaar guddigan oo guddiga laftirkooda ay sheegeen reerliman way farbadayihiin aqoon-yahan iyo siyaasiyiin leeyihiin ganacsatay leeyihiin dhammaantana inaan midowno oon u dhaqaaqno dhinac walba oon ka faa'iidaysan karno nolosheenna dhaqaatiir hadday tahay dalkanaga dhaqaatiir u baahan yahay ilmahanaga waxay u dhintaan jadeeco waxay u dhintaan fuuqbax dhaqaatiirta xamreedu joogta ay wax walbarto sidaan abuuxa marka waxa weeye fadlan anigu intaasaan kusoo koobayaa aan ku dadaalno meeshaan galabta kulanka ka bilowday inaan gadaal ugu celino isagoo miro dhal ah meeshii aan kasoo askunay haddii alla idmo haddii aan wax qalday wixii aan qalda shaydan xaggiisa ka ahaadeen wixii aan saxan ilaaha ku mahadsan idinkuna iga raali ahaada waqti badana idinku qaaday warkaan idinku badiyey asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka aad iyo aad baan kugu faraxsanahay qalbiguna raalli unbuu inka yahay waxaan filayaa suugaanyahan hadday ahaaleed meesha wuu yimid culmo udiin hadday ahaaleed meesha way timid laakiin soomaalidu waxay dhahdaa waa hadlaa looma hadle maxaa haray baa loo hadlaa waxaan filayaa meeshaan waxba kama dhimanayn sidaa darteed kuleyto soomaalidu way iska war badan tahay waxaan ku naanaysaa inaan nahay oral society bulsho afka ka hadasho waxaan baa ku dari waxaa jirto soomaalidu mahmah ay isticmaasho cajiib ah oo saddexley ah oo meel kastoo aan tago aan jeclaa dadka inaan la wadaago gaar ahaan marxaladan ehelkanaga ka dhex jirto oo kale saamayn buuxda ku leh mahmahda waxaa la yidhahdaa waxaa jiro faraku dhuxulle faraanti weyne iyo faqiir ku noolaade faraku dhuxulle waxaa la yidhahdaa qofka hantida tabco oo ku dhib muto oo juhdiga ku bixiyo wuxuu dhalaa nin la yidhaahdo faraanti weyne oo aan fakirin faraanti weyn buu si qaataa 4 gabdhood buu iska aroosaya waxaa laga yaabaa inuu sadaqan meeshaas adugu uu iska tunto waayo aabiis baa hanti u tabca adduunyadana waxaa la yidhahdaa waa nin aabiis u tabcayo ku is istaago iyo nin ku wareersan marka midka saddexaadna waxaa la yidhaahdaa faqiir ku noolaade markaan dib u milicsana marka taariikhda inaga ahaan haddaan ehelka naga eegna aynu leenahay waxaa jira rag odayaal ah oo soo halgamay oo soo aniga waxaa laga yaabaa maantay markaan meesha soo istaago in muuse goodirmiya xaashi canshuur alley anigu ma arkin xaashi canshuur laakiin markaad dib u fiirda awowyaalkana waxay ahayn dad taariikh leh oo saamayn leh dib marka anigu waan dhaleeceeyaa aabbayaalku sidii loo baahnaa ma aysan samayn awoyaal waa fara ku dhuxulayaal aabbayaalna waa faranti weynayaal innaguna maxaynu nahay haddaan sidaan sii ahana faqiir ku noolayaal baan noqonayna waana ku dhammaysanaynaa marka ehelka
waxaan si guud iyo si gaar uga codsanayaa in aan juhdi iyo dadaal bixino. meeshaan waxaa noo joogo gudoomiye ku-xigeenaa noo joogo. horta waan u hambalyaynayaa oo hambalyada in laga bilaabay ahayde waan u hambalyaynayaa. hambalye kadib ayaka ma aha waxa shaqada looga baahan yahay. waa inuu qof kastoo naga mida madaxa mayraxda ku xirto oo juhdi iyo dadaal bixiyo. laakiin haddaan nidhaahno dadkaan culays aan u dhiibno aan kala tagno suurtagal ma aha. tobannaan jeerna waan arkayo shirar ehelka waa kasoo qayb galay. waxaa laga yaabaa maanta meesha markii xilka loogu dhiibo oo loogu hambalyeeyo ee lagu kala tago kulanka soo socda ay iclaamiyaan inay 2 qof u timaado. 2 qof yaa wuxuu sheegay marka reeli baa ma 2 qof ah waa maya. waxaan ka codsanayaa marka dhammaan ehelka inay juhdi iyo dadaal ku bixiyaan arrintaa sidii ay u hirgeli lahayd u soco lahayd. qof kasta ayaa looga baahan yahay, ma ahna ayaka bis. safar kastana waxaa la dhahaa wuxuu ka bilowdaa hal tilaabo ama one step. kulleyta maantay waa bilow meel wanaagsan baan taaganahay. waxaan rabnaa marka gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo guddiga la shaqaynaaba inay noqdaan geesiyaal. geesi waxay dhahdaa carabtu ma ahan ninka dadka laayo. hadaayatana cajmaada ka cudur daartayo inagoo in la bogaadiyo muhiim maahan oo la yiraahdo wargeesiyaal aan noqono, waraan waxtar noqono, waraan halganno maaha. laakiin dhanka kale adduunyadu ku hormartay sida qalinka kale waa abuu hatraawila qalinka wax suureeyo kugu sima halka dooni saaxiib kal furan weeyo sunta far ku hayintiisa waa abuu hatraawila qalinkaas un baa dantu maanta dunida ku jirta hormar. marka inaga waxaan ku caayaa ama ayaanlaha kale ay yiraahdaan agoonta reeliga waa agoon. waxaa laga yaabaa aabba inuu dhalay 10 nin oo reeli baana 9 kamid ah waxaa laga yaabaa inay dagaal qabiil ku dhimato ama soo jamhaday oo dhul badan aan ku soo qabsan. marka agoonnimadaas nool ku naanayso waa dhabti wax jira markaad fiiriso. marka dhanka inaan la aadin ee dhankan geesinimada waa midda qofka adkaysiga kartida dhankaas in la aado. waxaa marka nina wuxuu suuriyay geesinimo maxay tahay. markaas wuxuu yiri niyo suulkayga afka ka shaqaniin annakaada afka igil waa qaniinayay. qaniinadii markii la isdhaafsaday marka ninka soo jeedinaya arrinta waxaa lagu naanaysi jiray inuu yahay geesiga carabta. aad markii la isku qaniinay midkii fuliga ayaa qayliyay moogta. marka wuxuu maxaa la qaylasanayo wax yar haddaad adkaysa leedahay anaa qayli lahayo. geesinimadan adeeg kugu wareegay. geesinimada dhan oo la sheegaa marka waa kartida iyo adkaysiga. waxaan ka codsanaynaa marka sidoo kale guddiga karti iyo adkaysi iyo juhdi iyo dadaal inay bixiyaan. intaas ayaan kusoo koobayaa nasiib badine. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. horta hadal badan haan buuxshan lahay anaga astaan leenahay iyo hadal heeskeenu wuxuu ahay in waxay ku qurux badneed in marka hore la sheego dhalinta reer Liibaan waxay leeyihiin hadalkaas oo ah howl badan iyo hadal yar. maamaha ingiriisna waxay ahayd the rain started with a single drop. يعني haddaan fasir waxaa waaye roob kasta wuxuu ka bilowdaa 1 drop ama hal dhibic. dhibicdii dhalinta reer Liibaan galabta waaye waxaan rajayn doonaa inay daad noqdaan. aad iyo aad ugu mahadsanyahay walaalkan Cabdifitaax. waxaa inagu xigi doonaa qof hadda halkan soo istaajiyo qulubtiina dhan ay qushuuceedo mudane nuur xirsi shidane fadlan ala soo dhaweeyo. salaama waxaan malayaa wuxuu dhahay ninka xiriiriye wuxuu yidhi nin aad magaciisa iyo muuqaalkiisa haddaad aragtiin aad la jaabi doonteen. saas ma iyo waxaan meesha u soo istaagay waxaan malayaa dadka meesha soo istaagay ninka ugu aqliga yaraan ahay saas la ii faaniyey ma ihi. marka aad mahadsantihiin waa in salaama dhammaantiin. waxaan u malaynayaa meeshaan wixii la sheegi lahaa dhan dadka waa la sheegeen. wax ii haraba ma jiraan aan malaya inaan iraahdo waxa iga soo dhow faataxada noo marayna kala wada wax haraba ma jiraan marka horena waati lagu magacalayay moogtahay ninka la yiraahdo qofku waa kale yiraahdo waxa looma hadlo baa kale maxaa hara loo hadlaa looma hadlo baa kale yiraahdo adaa haray warkii waa la yiri anigu dhowr buqo iyo anaga gaaban rabaa inaan la wadaago oo ku saabsan guddigan iyo hawsha ay hayeen iyo waxay rabaan inay meesha ka soo bandhigaan magacyadii guddiga iyo waxa soo dhan hore la in la wadaagay. marka taas intaan gudan galin wax yar aan ka hormarinaa oo ku saabsan meeshaan barnaamijka la isku yimid wax yar ku saabsan oo midnimada
midnimada cidda iyo wadajirkooda waxaan u malaynaa dadkan waa ka wada dheragsan yihiin midnimada qiimaha ay leedahay iyo waxay ku fadhiso qofku dadkan ay garanayaan marka midnimada inaan ka shaqayno iyo cidda wadajirkeeda dadka inay kala tafaarugeen inay xaaladoodu ay aad u kala baahday weliba si dhalinyarada ahaan dhalinyarada inaysan xaaladooda isku aadanayn oo rag tashada oo baa kala yiraahdo meel isku maaysan jirin باكر ما سنتين كلمة ما سنتين مركا دليرة ما دام أدبر أنتو كلا بهذي وباكر هذا أي واحد من اسم ذو تشرين أو اسم باكر يسوي واحد تشرين سنتين إن لم يدوب أو سوى الجرة أو باكر لو الشقاية من نوع واحد عن مهماية واحد جرت باكر هذا باكر هذا وحرام ما يدنا أتكو يود أفصامي هذا ما قانون ولا يدريه قرال هذا هدان مهموين كي وحي أنا فهم واي ود الشراء واحد عن دعاء وباهنة وكانت فرارقنا حوار وباهنة وما هي يزم حكي اللي ينتهي دي قف وفنا والدعاء وباهنة هاي بس dadku haday midoobaan de wax ka soo imaado ay isaga aado macnaha ay ka meel iska saari karo marka mahmaaya soo mahmaaya cajiiba oo dadka haday midoobaan inay wax walba ka gudbi karaan hadii ay faraaruq iyo macnaha kala qaybsan ay ku jiraan wax ka soo ku imaado ay macnaha u liitaan inay baa kala yiraahdo aysan iska difaacin marka midnimada in aad ugu dadaalo abwaanadii aad joogay waa ku gardarooraha macnaha maasay wax yar waxaan rabaa laba qodob yar oo macnaha abwaan aan gabiis ka arkay inaan ku sii daro midnimada iyo jirka marka laba nuqaar raba inaan ku daro iyadoo macnaha waa kala yiraahdo midnimada iyo jirka la xiriirto oo abwaanadii aad joogay shaqadeeda ma amase waan warkan ku buuxin rabaa abwaan wuxuu dhahay waa kala yiraahdo dhararadu laba haday yihiin dhararadu haday laba yihiin dharima celiyaan dharima qaadaan dhararadu haday laba yihiin dharima qaadaan waxa dhagax kale loogu darayo shaygu yoo dhicin nina keligii ma dhiirado haddaan dhowr la ciidamini marka iga raali ahaada intaas yarta waa iska xoogsi iska cusub waa dadka baa yaqaana macnaha dheriga waa aragteen laba xaba haddii macnaha la saaro digsi uu dhacaa macnaha maadaama marka haddii laba xabo dheri la saaro uu dhacaa waxaa lamida macnaha midnimada iyo wadajirka lamida oo haddaanse wadajir jirin waa mahmaahin badan ku saabsan wadajirka iyo midnimada way ku badan yihiin Soomaalida gacmo wadajir u gooyaan iyo waxa la yiraahdo gacan kaliya fal ma dhaqdo iyo waxaas oo dhan waxay muujinayaan waa wadajirka iyo midnimada ka sheekay ka hadlayaan marka waxda taariikhii wuxuu yahay ragay dadkii ugu horeeyay ay jeediyeen in la midoobo oo awoodeena iyo xuduudeena aan isku geyno markaas aan wax kasta oo naga hor imaado oo culays iyo wax walba aan ka gudbi karnaa marka taas waa sidaas intaas waa yar oo anaga wax ka yiraahdo midnimada iyo wadajirka ku saabsan waxaan rabaa wax yar oo aan rabo in soo bandhigeen guddiga soo bandhigeen iyo groupkan ka soo shaqeeyeen aan rabaa inaan la wadaago daawo guddiga horna la wadaagay markaan waxaan rabaa maadaama guddi la dhisay oo guddigii waxay ka shaqeynayaan maxaa waaye barnaamijka dhan waxa loo sameeyaa guddigan iyo hal midoobay waxa waaye war dadku bajad la'aan iyo lacag la'aan ma midoobi karaan haddii ay midoobaan maxay ku shaqeynayaan oo dadka wax loo qabana maxaa waaye waa in dadkeena masaakiinta la caawiyo oo inta bajad iyo lacag wax meel lagu aruursado dadkeena la caawiyo waana qodobka weyn ugu muhiimsan haddii aan tan midoowna maanta oo dhan aan meel ah kaliya aan wada shaqeyno haddii aanan keenna waa kaliya liito ka caafimaadka ka liito ka dhaqaalaha ka liito waxbarashada ka liito ka nolosha iyo duruufta nolosha ay haysto aan caawin de macnaha midowgeen wax ma taraayo midow waxa waaye mid wax noo tarana wuxuu yahay markii aan keenna duruufaysan aan caawino marka muhiimadda loo sameeyay waa guddiga iyo groupka macnaha barnaamijka loo sameeyay oo midowga loo sameeyay waa barnaamijkaas inaan samaysano budget iyo nidaam kaas oo ka turjumaya inaan caawino dadkeena duruufaysan marka waxaan maleynaa yara lahada waa yara haysan marka barnaamijkii guddigii waxay soo falanqeeyeen siday wax u la ekeed
ay wax soo diyaariyeen waxa laga yaabaa dee wax bini'aadan ana wax badan aan qaladnay wax badan aan ka tagnay marka wixii aan qaladno oo ka tagnay oo mudnaa inaan sheegno ama aan soo diyaarino raalgelin aan ka baxaynaa marka haddaan hore u sii galo guddigu wuxuu soo diyaarshay barnaamij ama jadwal ku saabsan qaab lacag loo ururinayo oo dadka walaalaha ah oo marka yiraahdo durufaysan mid xagga nolosha iyo waxbarashada iyo ay duruuf noocay rabta ahaato lagu caawinayo marka dee waxaa la ogyahay ciidan duruufeed inay aad u fara badan yihiin mid nolol ay noqon karaan mid waxbarasho ay noqon karaan iyo wax ka sii badanba dee baahida dhalinyaro isku timi oo dee ay ku jeebkooda iska yaryahay oo wax weyn aan qaban karin baahiyoo dhan macnaha ma kaafi karaan bas qayb ka mid a meelaha ugu dardaran waa in la fiirsho warnimada xaggee ugu daran oo aan wax ka qabanaa xaggee ka bilownaa adeeg guddigii markay tashadeen oo fiiriyeen meelaha isdhahayeen waa meelaha ugu daran ay isla fiiriyeen sidoo kale waxay fiirsheen war dadka dadka waa kala yidhaahdo walaalaha iyagoo dadka walaalada caawinayo ay wax yar iskaga aruuriyaan oo iyakana aysan dareemin dadka walaalaha ah oo la sii hayaan wax u taraayo marka barnaamijkaas ay soo diyaariyeen lacag oo qofka bishii laga qaadayo oo kan aan shaqaysan ama macnaha wax barto laga yaabo inay macaashaad ku soo gali karto kan oo shaqaysan haddii isagu dhib kuma ahan haddii la fiirsho walaalkiisa wax u tarayso wax weyn u taraya haddii meel ku aruurto waa Soomaali waxay dhahaan like leeyahay quraanjo aruurta dhinac waa sidaa marka haddii u aruuraan waxaan oo meel lagu rido dee waxbay tarayaan wax weyn tarayaan marka wax yar oo qofkiina uusan dareemin kii loo gargaarayana wax u tarayaan marka jadwalkaas ay soo diyaariyeen haddaan in ku sii gudgalo waxa waaye in dadka waxaa loo kala qaado qurba iyo waxaa loo kala qaado gudaha barnaamijkan ma ahan gudaha keliya guddigan maca hadda 13 qof oo meesha ku jiro oo laga yaabo inay wax badan naga sii dhiman yihiin oo dugul bilownahay waxa ku jira dad gudaha jooga iyo dad qurbaha jooga intaba waliba dad qurbaha jooga xoogna kule oo dad badan oo qurbaha jooga ku jiro oo muhiim ah marka waan kala qaadnay maadaama barnaamijka iyo qurbaha gudaha walaal ay kala qaadayaan inaan laba kala qaadnay waxaan nidhi maxaa qaban kara gudaha iyo dadka gudaha jooga dadka qurbaha jooga maxaa qaban karo adiga dood dheer kabacdiyeed waxaa lagu heshiiyey wax yar oo dadku aysan wax kala dareemin oo $3 qofka bishii inuu meel ku kuriyo akoon la sameeyay jadwal la sameeyay akoonkaas qofku $3 bishii kuriyo waxa hadda la fiish aad u yar aad u yarta bas waxa la bilaa aan wax bilaawno meel aan wax ka bilaawno haddii wax la bilaabo oo intaas la dhaqaajiyo markii la ogaado inuu barnaamij shaqeeyo hadhow waxa la dhigi karaa walaalayaal wax waan weer yihiin wax nacfin wax matarayaan intaani aan wax ka bedelno aan badino hadday badsamayaan marka waxa la yiri meel hoos aan ka bilaawno adiga $3 oo Soomaali ah qofka inuu bishii kuli waxa laga yaabaa qofka aan shaqaysan macaa $3 inay internet isticmaalna waxa isticmaalna waxa laga yaabaa inay nagu soo gasho oo telefoon isticmaalna meeqa bishii telefoon isticmaalna internet isticmaalna haddii aan walaalka aad $1 guridi ama $1 maalinta ka soo qaado wax ka yar haddii $3 wal dareem haddii loo qaybsho bil inta ka oo soo aaday maalintii waxa aad u yar waaye ayadoon ognahay dadku duruufooyin iska badan yihiin oo dadku aysan shaqahayn ay shaqo la'aan iska jirto haddana qofkii awooda inuu $3 uu bishii ku rido baa kaliya akoonkaas ku rido sidoo kale dadka qurbaha jooga ayakuna wax aad u yar marka la fiirsho waana waxa ku sheegnaa bilowga waxa la bal wax yar aan ka bilaawno marka $5 ayakana inay akoonkaas ku tuuraan de markii kale xogaa la fahmo dadku fahmaan barnaamijku inuu shaqeynayaan la yiraahdo bal aan inta ka sii badino marka saasaan u loo diyaarshay jadwalkii lacagta la qaadayay sidoo kale qaabka loo qaado waxa leeyahay qofkii Soomaaliya joogo kale bilbilhaas kaga bixiyo waxa laga yaabaa bishii ufuuda qofka maadaama uu soo dadkii dhalinyarada shaqaysan oo lacag weyn soo gal ay u badan yihiin $3 bishii iska tuuro qofkii waxay soo yiraahdeen anigu 6 bilood shuba sanadan shuba falilahi alhamdu waa soo dhaweeyna sidoo kale dadka qurbaha jooga ayagana waxa la yiraahdaa iyagu maadaama ay dawladda qurbaha joogaan lacag wax soo dirdirayaan $5 bil kasta ma soo diri karaan 6 bilood iyo sanad aan soo qabano iyagu waxa la yiraahdaa 6 bilood oo sanadkii hal mar ha shubeen falilahi alhamdu hadda meel fiican oo mare dadka hadda yartaan lacag macquul ah koonka ku jirto waa bilaabatay lacagtaas dadka guddiga iyo dad kale badan oo walaalaha barnaamijkii hore noola qaateen lacagtina way bilaabeen baa 6 bilood sanad way shubeen waa ugu mahadcelinaynaa qarashadooda waa midda lacagta qaabka loo qaaday
marka waxaan nidhi lacagaan qaadaynaa waa isla fahanay intaan lacagtii aan qaadaynana waa isla fahanay war lacagta aan xagee ku bixinaynaa marka lacagaa soo aruurtay lacagta xagee lagu bixinaa ayadna waxaa loo dejiyey jadwal loo dejiyey lacagta adigu doodeeda kabacdiyeed markii meelaha ugu muhiimsan maadaama baahiyihii ay fara badan yihiin oon baahiyihii la wada dabooli karin meelaha ugu muhiimsanaa la yidhi waa meelaha ugu daran baahiyaha ugu horeyda aan fiirino kuwaas ruuxooda laga yaabaa inaan dhammaan wax laga wada qaban karo base waa iyaga ruuxooda lasii kala doordoorta la yidhi waxaa la yidhi qodobka koowaad ilaa 5 qodob lagu soo koobay 5taas qodob waxaa waaye danyarta waxaa la yidhi meejaan cafan agoonta danyarta ah kuwaasoo aysan jirin qof qaraabo ama oo garab taagan oo markaas wixii macnaha waxbarasho ama mid nololeed ama mid caafimaadba aan kaabay usan jirin walaa qof walba qaraabo waa isii kala xigtaa walaa ninka walaalkiisa haduu xogaayo nin ama adeerkiisa ama awgiis oo yahay nin macquul ah wax ka bixi karo waxa laga yaabaa inuu isku leexiyo soo qofkii haduu soo qof waa qaraabo ama eelo markaas uusan garab taagnayn de wax u soo noqonaa waa liibaan weyn u soo noqonaa liibaan weyn aan rabaa inuu liibaan weynna meesha wax ku aruursanay waa meeshan iyo meel lamid marka agoonta dayarka agoon waxaa jira iyagu dhaqaale haysta ama dad oo qaraabaha oo la xiriiraan jiro waxaan wax ka bixi kara ama ka kaabi kara sidoo kale qodobka labaad waxaa la yidhi qofka caafimaad degdeg xaaladiisu ay daran tahay asna sidoo kale aysan jirin qof qaraabaha oo markaas garab taagan oo wixii fasiilada iyo lacag markaas ka dhiibi karo markiiba oo u soo noqday reeliba uu yirooday wax waxa iga dhiiba ma arkee waxaan rabaa in la caawiyo iyadoo la sii fiirayo ruuxeeda waxa laga yaabaa hadii la yiraahdo waxba lacag lahayo waxba la bixinaa ayaan dhigtay wala qurbaad joogtay maraan barnaamijka diyaarinayna waxay dheen warada tiradin lacag aan bixinayna oo lacag aan dadka siinayna waxa la leeyahay waa si hay'adii lacagta bixiyaan la leeyahay waa kale la leeyahay qof walba soo cabana marka waa sifooyin gaaray siileeyihiin sifiicanna waa loo sii faahfaahin doonaa sidoo kale qodobka saddexaad qoysaska danyarta ah qoysas danyar xaaladoodu aad u daran tahay aysan jirin sidoo kale qof qaraaba ama qof oo markaas qaraabo si hoose oo garab taagan ama kaalmaynaya qodobka shanaad afraad haddaan usii gudbo waxbarashada waa meeshaan rag badan ay ka hadleen ninka la yidhaahdo calimahaad iyo walaalkay aad uga hadlay nin walba wuxuu yaqaano aad macnaha u kurbeeyo calimahaad walaalkay aad uga mahadsanyahay isagoo macnaha si fiican ugu dhiirigeliya maadaama ay dadkeeni waa la dareemaha meesha ugu badan dadka ay jiraan waxaa waaye waa dhulkii aan dadka wada yimi inteena waxaan u malayhaa qof magaaladan ku dhashay wuu yaryahay asagaa baa ka la yidhaha xagga ku dhashay inta waxaa laga yaabaa qof aabiis ku dhashay inuu yaryahay laga yaaba indee waa xaggan ka wada nimi waa la soo kala horreeyey qof aan soo ku dhalan aabiisa xagga ku dhashay ama awowgiisa ku dhashay marka dadkii meeshay jiraan baradid ku badan xaggay naga jiraan dadka u baahan caawinta iyo garab istaaga badanna waa dadka xagga jira dadka inta jooga waxaa laga yaabaa inta magaalada iska reexreexda nin waxbarasho inta iska reexreexda wax helay nin shaqo helay waa dadkan magaalka jooga xoogaa un haba kala darnaadeene waxaa laga yaabaa inay magaalada riixi karaan dadka ugu daran oo problem ka jira waa dadka gobolkii jiray marka dadkaas xagga waxbarashada waa waxbarashada soo qaatay waxbarashada waa aad iyo aad meesha waxaan u malaynaa waa meesha aad aan uga liidano si hore u sheegeen waxbarashada in aad uga hooseyno kii waxaa laga yaabaa waxa la yiraahdo dhaqaalihii oo arki waayeen oo iska daayo waxaa jira guruubyada ama qabiilada nalamida waxaa jira macnaha akoomo ay samaystaan oo dadkooda waxbarashada ka haray ama iskuulo furaan ama ay baa la yiraahdo akoonta wax kurida ay ka bixiyaan marka danta aan kaleena tana kamida in qofkii waxbarashadii ka haray bal qofkii daran oo wax qof qaraabaha garab taagan si kale usan jirin in wixii laga bixi karo laga bixiyo nima asagoo meel soo gaaray ama iskuulkii ka soo baxay jaamacaddii uu baa dhigala yahay mid iskuulkii dhammaay uu dhiganba oo duruuf lacag dhaqaale awood u haray marka waxbarashada ruuxeedu aad iyo aad ay muhiim noogu tahay inaan xoogga saarno marka taasna waa xagga waxbarashada marka qodobada ugu muhiimsan oo lagu soo koobay waa intaas waaye waxaan umalaynaa inaad in dadka iyo barnaamijka soo diyaarigtooda inay ahayd 4 qodob kusoo koobaan ka badanaa jiro oo baahiya ka badanaa jiro base waxaa waaye waxaa laga hadlay baahiya anakoo fiirayna say u kala horeeyaan iyo intaan awoodnaa laga hadla maahane baahiyu inay aad u fara badan yihiin horaa la iskugu sheegay marka meelihii wax lagu bixinayay intaasaan kusoo koobnay marka
marka intaas waxa waaye budgetkii iyo lacagtii wixii macnaha guddigu ay soo diyaariyeen marka intaas waa isla fahnay waxaa meeshan ku qoran shuruuc ama wax kale yiraahdo xeroosaad lagu hagayo wax kale cidda lagu hagayo ama dhalinta reer Liibaan lagu hagayo maadaama hadda wax badan meeshan ka hadlayna waxa la yiri dhaqankii rag odayaal taagan oo hadda anagu dhaqankii ma nihin waxay hadda meeshan sugu nin waa dhalinyaro dadka is abaabulaan ay ku isku raacaan oo nidaam iyo kala dambeyn iyo guddi iyo yeeshaan iyo odayaashiina waa gaaraynaa oo marka odayaashiina ma gaari doonaa marka hadda waa dhalinyaro maadaama barnaamij dhalinyaro yahay waxa la yiri shuruucdii ay ku shaqay lahaayeen oo ku kala dambeyn lahaayeen ayaa lana soo qoray marka qodobada dan tiriyo waxaa la yiri meeshan qodobka koowaad waa in istixtiraamnaa dhexdeena isku tanaasulnaa ixtiraamku waa waxaan maleynaa waa aad iyo aad wax weyn qofkii ka aragti bedelan ama waxa adiga aad u jeedi ama aad arkaysi wax ka bedelan soo bandhigo ma aha inuu ka aragti liito inuu ka aqal xun yahay bas waxa way wax kala bedelan diin waa bil aadanka Ilaahay soo abuuro aragtido kala bedelanta labada saddex oo waliba mataanaha laga yaabo in isku aragti wax badan iska aragti ahayn marka diiba aan hal aragti ahayn oo ku tigay aan si hal si wax u arki lahayn ee horumar ma jireen سي ماشي اللي يقولنا يا انا بدك استاجنا كده عاقع ما سدي marka maadaama shuruuca la dejiyo احترامك وآل مهم إن اسكت تنازل سيدو كله قف ولا كان عدا وحسوق قبتين وحسوق قبت بالعادة لاتين وحواس قبنيسين أركتيا كله بدل هايسين مركا قف كي وحسوق قبتين إن اسكت تنازل عدوك قف ولا كان أصو حناقو أو أركت أصو كلون أو برنامج كحناق إن أنا كده حناق هدي اسكت ده حناقو معناها وحي إيمان ماشاس ده ومشي وحلا ما إيمان مركا إن اسكت تنازل أو قف دي باكر هذا اسكت تنازل وقلب كلا بعد واحد مضنوع كألين ماشان أو بحكي بحثات الانترنت ليبان waxaan groupkan ama waxa la yiraahdo inta dhaxdeeda waxaan dantooda ku saabsaneen ama dantooda la xiriirin in looga dhaxdoodo oo inta looga dhaxdoodo la isku khilaafo oo macna la isku dagaalo taasna waa ka madnuuc sidoo kale waxa la yiri waxa ka madnuuc ah arrimaha la xiriira waxa la yiri meeshan ma horana marka ku soo sheegay waxa diyo waxa la wax dhaqan kuma saabsan maadaama dhaqan la xiriiri meeshaan wax diyo la yiraahdo ama hebel dhaawacay ama hebel baakay la yiraahdo ay kuma jirto oo meeshaan xal iyo baakay wixii diyo wixii la kala qaado jirto kuma jirto waa barnaamij dhalinyaro diyana kuma jirto hadii wixii diyaha la kala qaado taas odayaashii u taala barnaamijka dhalinyaro waayo oo lagu caawinayo dadka liito oo dadka danyarta waa qodobada ay kamid tahay sidoo kale qodobka afraad waxa la yiri guddiga hawsha loo dirsaday qof kasta oo kamid go'aan kama qaadan karo wax la xiriiro oo dhalinta reer Liibaan danahooda ka soo qaad aniga nuur xilsishane in kasoo magay hore kaga sheegay waa maqasheen malayha hadii aniga wax ugu soo dhacaan inaan ka iraado أنا قاعد كنت إرادة وحصل سمينا أنا معقول من قناة قف كسر جودة كتيرسن ما قال كانوا أن كريس إلا أن تلا أنا لقيت ضوضة لقول شيء أو مال سكور عماني كري واحد لقوا بحكي كره العقدان قلبي لقوا شيء إلا وح كبدل لقوا سمعي كسر هذا شنقة أفرق ولا لقوا هدي عريس بدن إمادة اللي يرادوا عريس كبدن إمادة وحس بدل اللي يرادوا وح كبدل كسمعينه إلا أنا كبدل كسمعي شنطان قلب وح كبدل النواب بحكي كره waxa xaq u yeelan la qof kasta lacagtan la aruushay qof kasta oo cid ka tirsan oo reediban ka tirsan xaq u yeelan lacagta la aruushay hadii laga helo waana sifooyinkii afartii qodob shantii qodob meesha lagu soo sheegay hadii laga helo sifadii xaq u yeelana qodobka toddobaad waxa waaye waxa ka madnuuca la yiri mabda ku saabsan waxa ay khilaaf diimeed waxa way aragteen waxa jira khilaaf diimeed oo baa kale
madaahibta iyo ama laga yaabo culimada u dhaxeeyo marka in dhalinta dhexdeeda looga doodo dadkii isku nacaan ay ku kala tagaan waxa danta anagoo islaam oo ku tahay islaam haddana macnaha waxa jira baa kale yiraahdo madaahib iyo waxyaalaha macnaha culimada isku khilaafsan yihiin marka waa ka madno inta suuq qabsada la isku dagaalo kala tagaan taas awgeed macnaha waa ka madno in dhexdeeda looga doodo ayadoo muslim wada nahay oo aan u jiro qof gaala haddana in looga dhex doodo oo dadkii isku nacaan waa ka madno calaydi sidoo kale waxa ka madno dana shakhsi gaar oo yiraahdo danaha ka fushanay waxa meesha la isku imaaday waa dan Hiirland marka maadaama ay tahay qof inuu ka dhex arko dantiisa oo yiraahdo danteeda aniga la iga fuliyo taasna waa ka madno qodobka sagaalaad waxa la yiri macnaha waqti ma ku saabsan tahay guddiga ku saabsan tahay guddiga waxa la yiri oo shaqeynayo waa la bedeli karaa markii waxa waa la bedeli karaa markii laga doodo oo lagu heshiiyo ama qofku cudurdaar soo keeno ama waxa kale inta laga doodo lagu heshiiyo in qof la bedelo boos laga bedelo qof boos lagu bedelo marka halkaas qodob hadda noo qoran ka badan anagu intaan waa fikradeeni inta 20 ama 100 qodob ay noqon karaan kasi badan noqon karaan barnaamijkuna hadda waa bilow meel fiican hadda mara halkaas rabo in laga sii wado aqaan dadkii aqaankeeda culumadii iyo qoqaashi iyo nabadoon aftaan haduu yahay haduu aqoon yahay hore u hadleen aniga waxa la yiri waxa dhigi jiray qofka marka ila qofkii dhaamay oo doob mar ama hormar waxa dhigi jiray moogi marka anigu waa wixii aan dhaamay aan halay waa nafteeda iyo naf iyo shaydaan waaye wixii aan saxan ilaahay xaqiis ka ahaadeen wixii diin iyo wixii la kale sixir ana raximka xiriintiisa iyo waxa subanna sheekha noo sheegay iyo dadkii horena dadaaran waa inay tahay barnaamijkan lama kooban waxay barasho waxa laga yaabaa xogaay qoobos u kala horeeyaan inaad isku begataan ama cabsi daraadeed inaan xogaa hilmaanay barnaamijka meesha la isku inuu ahaa lambar 1 isbarasho oo hadda way noo dhimanta isbarashadii in qof walba uu meesha imaado oo sheego yiraahdo aniga inay ilaa liiban geliyo way noo dhiman tahay sidoo kale waxay ahayd in guddiga hawshan loo diray lagu dhiirigeliyo loo sheego waajibaadka laga rabo sidoo kale waxay ahayd in baa kale yiraahdo ay soo bandhigaan guddiga waxay hayaan ay soo diyaariyeen marka adigu saddexaas qodob ugu muhiimsanay assalaamu calaykum waxaan noo dhiman oo kaliya waxa waaye photo group laakiin wax ugu dambeeya oo last year xafladan lagu soo ganaanidi doono waxa waaye abwaanka oo gabay laga codsaday waana abwaan dalab la soo dhaweeyay fadlan saaxibka socod in la baraarujiyo way fiican tahay laakiin gabay kastoo la tiriyaa tusaalaha ku dhex jira marka gabay kasta tusaalaha ku jira ma xigmad weyn wali ma gaarin waa gaari doonaa taas gabaygan taariikhda dunida la yiraahdaa waxaan ku bilaabay marka hore ma isamaana gabayga ma ku bilaabaa xuquuqda abwaanka iskale taada gabayga ruuxii yaqaan looma taag helo toobal caaro kuma fiicna iyo beenta waaweynane tixda curiyo baa lagu gartaa geesi loo talay tabiyaha inaan ahay murtida loogu tagi waaye talantaalis waagaan u riday meeshan kuma taal anigoon 7 gaarin baa laygu toosiyay abwaan lagu tixgeliyaan ahaatiniya waagaas tog la furay sidiisii inaan tiriyo suugaanta tabartayda ma ahi awood aniga taydaaye taajirkii ii uumay iyo rabbaa ii tacaawimay balaantiriyo waa taad in badan igu tabayseen taariikhda baa mudan inaan dib u tixraacnay ayadoo tamcaartiya nimcada qaaradani taala 10 jeer ka badan tahay dunidan tuqsiga u aadno afrikada maana iri tahriib meel kastaba taagan dalkoodo tigaad badan loo teedsan yahay qayrku ha tabcina maana iri dhulkee dhoof u wada tooqa tafta kuwa u xaytay isiiri yurub mar soo taabta ayagoo tabaalaysanay toos la kici waayay maana tuuga liibiye fadhida badi ku taakeeyay tubqa loocan dulkii maraataran ma yeeshaane waa dictator goortay dheheen geesi taban taaba ayaga nidaamkiyo tirtiray talisyadoodii maaniga Tripoli ka dhigay meel wax lagu togto intaan taadi awgis dhargee kibir la soo toosay maaniga talxiil iriiriya tira masaakiina sidii ruux ku talagalay dalxiis uu tamashleeyo maaniga Paris orod ku tagay Tookiyana diiday tala xumada qaarkeed marbay eber ku taagtaayay maaniga inay kala tagaan Arab ku taageeray inay tuurta dhigataa dahraan loo tallamaya watiide inay tuurta dhigataa dahraan loo tallamaya sidii loo tahluukayn lahaa waaye loo turbiye maana tooshka Iiraan ku shidaysaan u kala tuuro waa horay Ciraaq tumatay oo dhiig toga qaad taariikhda
magacay lahayd kii tiraa garane maanigaa tubada suray baqdaad meesha sare taalla haddaan nabadda loo turin dagaal waa dhib iyo tawse maanigaa talluun dabashidee suuriya u taabtay tartan baa adduunyadan ka jira nin iyo taagtiise maanigaa talyaaniga dulmiya ruushna taban taabay wiilkii timaha xayrnaa cirkiga taabay samada hadba wuxuu tijaabshaa nuglayr tiira dheera ah maanigaa madaaficda tubay kuuriyada taalla إسرائيل ركبة تيري ملهم دنت كلامنا قبل ملهم وكلوا إسرائيل ركبة تيرية كبير متوقعين ما نيجا تلابيب وقضي تانجية ده يلا دبديد يهود تبرعات توصب وجي فلسطين نجح تورا إيري عن كرر جنتها طلع أي مرة ينقون قوة حوك تبرعنا تعس يا صنعية واجبتين تاجي عدن تواوع عكب حيبان كان حي شعب كتورناي ما أنا يبان ترسيني كده جاي لا إسكتوريا يو تلابدا أي قضاء عن كرلوت كوبيا يتنادم ويو كل تيكسن ملب سريع ما نيجا تركيا ماجا دول نحل u taagan tabartooda Chaynuhu cidka gabaw iska dhaxaad tabartooda Chaynuhu cid kale ugu ma tooqaane dastuurkooda kuma taal dagaal tacab qasaarkiisa tafaraaruq liiba bajiin loogu taliyaa Ottawa iyo Toronto lamida taakulan shacab tuhunan sal iyo raad lahayn sooma tabiyaane naasiyiintu say tuhunan sal iyo raad lahayn sooma tabiyaane turaabtooda ruuxii tagaa uu tacbanaya tabtaas oo kale reer Germany lagu tilmaamaa ma taraan turayaan Berlin qoomkii tiigsadee naasiyiintu say uga tageen waa u turayaale in Mareykan taabacay hogaantoobiyaha seejay taladooda goortay qabteen tiim cunsuriyeena soo 7 dalon kow ka nahay taaka kama saarin tigid inay u goostaan dalkaas toosna uma diidin maani inay kala takooraan bulshada tuuran filimayne maaniga taraam doortay oo taashka boqor saaray dantan kala haya marka gabayga inii sheega waagaas waxaan taageerayay oo intaas waxyaabaha badan aan u maray hal meel aan u socday markaas waxa jira wax aan taageeray laakiin haddeertaan sidii hore ma jirto dadka isbedelka jecel aan ahay markii doorasho kasta soo dhawaato oo meeshii hore dadka ku dhaganaada miyi marka Soomaaliya tayay dooratiyo dawlad toosida oo tafaraaruqli iyo midnimay taabageliyeen maaniga 5 tuug iri jawaan hoos ka talan qaata gabayga dhantan taas aan kala hay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh